إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أذهب الشيطان فيما بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة على سرر متقابلين في الدنيا والآخرة. شغواش نقل عصيو من في القرآن في آب ريوبان وكل جيد سو كعيروتي سو دوادة لماتي وكما سيكون سو قبل كينا سيدا الله سلطابا وحان مانتو بلسان لنا كهذا أحنتي بدي أمستردام ومطلو بلنبي ولحيتي الآخر بس قبا مسجد كينا خلاف توجه زوجي بدو رنتي معها واحد الوصول قوي كرا هل محاضرة هي هل خطبة لكن ما دام قصة تاعي مروا بيننا كهذا الموضوع وحن قصبنا علينا نمضي كعسول نضل وحي الوصول قبلي وحن رامك وراتي عليكم النوفر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مركور waxaan jecelahay Sheekh Aweys in maaragtay wacdigiisii uu roqay ee wanaagsanaa inuu Ilaahay ajri xasanaad ka siiyo annagana kuwii si fiican u dhageystay oo intay fahmeen ku camal fal Ilaahay inaga dhigo aamin. inta kadib horta runtii waxaa meesha ka muuqda maanta in dadkii Soomaaliyeed waddanka Holland kana yimid runtii gobollo badan oo qaarkood aad ay u fog yihiin. waxaan u jeedaa in laga yimid province Friesland, in laga yimid Brabant waa meelo aad u fog, in laga yimid Groningen, North Holland, South Holland. taas waxay sawir ka bixinaysaa in markis quba inuu yahay meel mujtamaca Soomaaliyeed ay leeyihiin oo aysan lahayn shakhsiyaad ama shakhsi. horta taas markhaatigeedii waa kana oo idinka ah. waad ogtihiin arrinta maanta meesha ay marayso, marxaladihii la soo maray, arrintan konfliktiga ah. runtii annagu ka guddi ahaan injineerka sharxi doona waxaan ahayn dad guddi ah oo Soomaalida Amsterdam oo runtii ah dadka masaajidka u dhow yani maaragtay mudanna ay isku soo baxeen si ay uga qayb qaataan oo xal ay u raadiyaan arrinta muxuu ahay maamulka masjidku ay isku qabteen in si aysan wax looga halaabin in la raadiyo dhexdhexaadin sulux iyo wanaag. guddigaas ayaan anigu ka mid ahaa shakhsiyan, anigoo runtii bilowgiina ka cudur daartay howlahaygo iska badan, laakiin dadku waxay igu codsadeen inaan ka mid noqdo. sidaa darteed anigu guddigaas waxaan u jiraa anigoo ah shakhsiyan
cali waare la yiraa cid aan ku matelo iyo urur aan ku matelana ma jirto intaa kadib hawshaas guddigaas waxaan isku daynay sidii ilaahay nagu ogyahay inaan wax badan aan maaragtay sulx wax ku raadino dadku waa isdagaalaan waa weliba maamul waa wax sunno ah laakiin haddii dadku ay isdagaalaan oo maamulka la isku qabto oo waxa la isku hayaa ay yihiin wax ummaddu ay leedahay oo markhaati aad ka wada tihiin oo aad usoo jeegteen masaajidkaas yani maaragtay sida uu ku yimid walaalihii waa in la dhexdhexaadiyaa lagu soo baxaa annagu isku day badanaa samaynay injineerkaa kolley sharaxi doono muhiimaddu waxay tahay walaalayaalow masaajidkaas ama markiskaas waxaa fiican in 3 su-aalood qof kasta uu isweydiiyo oo ah meeshaas markii ugu horreysay oo la gaday lacag 800,000 oo euro ku dhow ayaa laga bixiyay lacag fudud ma ah waxay ahayd meel garaash ah oo baabuurta lagu gado dad badan oo adiga ka miduna markhaatiyaad ka tihiin lacagtaas iyada ah qof jeebkiisa ka bixiyay si gaar ah ma jiro weliba dadka maamulka ah iyagu lacagtaas maysan bixin oo jeebkooda kama aysan soo bixin laakiin laga yaabay inay juhdi geliyeen waana ku mahadsan yihiin dad badan oo adinkii ka midana ay geliyeen kaamunka lacagta laga soo arooriyay waa xustaa marka lacagtaas waxay ka timid ummadda Soomaaliyeed waramaan isku diidana markii meeshii la dhisay ilaa garaasheed ma lagu dukan karay waxa la go'aansaday in loo ekaysiiyo ama laga dhigo meel lagu tukado salaada oo masjid ah hadda waa ogtihiin haddana waxay noqotay in tallaabo kale la qaado walaalihii sida gaarkaa isku xil saaray oo hadda meesha isku haysta waa mahadsan yihiin wanaaggii iyo dadaalkii ay qabteen waa xusayna laakiin mar walba cidda wax bixinaysay dadka Soomaaliyeed ay ahayd lacag intiiyoo kale u dhiganta amaba laga yaabo inay ka badan tahay ayaa la soo ururiyay si looga dhigo waa tallaabadii labaad meel lagu tukan karo loo ekaysiiyo lacagtaas xaggay ka timid ummadda Soomaaliyeed ee waddankooda gudidibadii ka timid waa la gaday waa la dhisay waxay noqotay meel lagu cibaadaysan karo ilaahay lagu caabudi karo ilmaha quraanka lagu bari karo oo maaragtay muxaadarooyinka lagu qaban karo intaa kadib waa ogtii waddankan si ilaa meeshii waxay u baahan tahay koronto la bixiyo gaas la bixiyo in underhow hadday musqul halaawdo hadduu nal jabo iyadana waa lacag waa ogtii sidoo kale waxaa jira wax la yiraa erf plastic oo iyadana sanadkiiba mar la bixiyo dhulka laga bixiyo walaalayaalow lacagtaas iyada ah oo joogtada oo la bixinayay ma waxa bixinayay walaalaha meesha isku haysto maya waxa bixinayay ummadda Soomaaliyeed marka 3 waxyaabood war meesha lacagta lagu gadayaa bixiyay ummadda Soomaaliyeed aa bixisay lacagta lagu dhisayaa bixiyay ummadda Soomaaliyeed aa bixisay ilaa hadda mid ku socotay yaa ummadda Soomaaliyeed haddii ummadda Soomaaliyeed meesha ay leedahay oo dadkii walaalihii maamulka ahaa oo aan xusayna wanaagii sameeyeen ee iyagii meeshii isku qabteen ay ku heshiin waayeen haddii in la heshiisiyana ay diideen ay yiraahdeen ma wada shaqaynayno ma wada joogi karno hebel waa inuu baxaa wax walba la isku dayo caqligu wuxuu sheegaa walaalayaalow meeshaas ummadda Soomaaliyeed iskale waa in ummadii lahayd loo celiyaa waa ceeb waxa nagu dhacay iyo foolxumo waddanka Holland 40,000 oo Soomaaliya ayaa dawladdu qortay inay joogto statistic Sheekh Suldaan waxa uu noo sheegay in masaajidka ay jiraan dad 3,000 oo qof noqon kara oo bil walba bixiya lacag oo donators ah 10 euro bixiya dadka si qayb ku jecel yihiin waa lacagta lagu bixiyo korontada gaaska underhoudka blastinka weli dadkaas sidoo kale waxaa jira istikhtin kale
oo isagana outfartiga ah oo wax wanaagsan qabto waa ogtihiin sida naloo sheegay isagana intaasoo kun oo qofood ay ku jirto marka dadkaas Soomaaliyeed oo tirada badanna waddanka jooga miyaa laga waayay dad meesha ehel u ah oo haddii walaalihii ay isqabteen oo xal ay diideen oo ay ku heshii waayeen hadda waa in ummadda wixii u celiyaan nuxurka ama ujeedadu waa sidaas horta inaan isla fahmo wixii anagu dadaala oo ilaahay nagu ogaa oo aan sameynay injineerka ayaa noo sharxi doono marka walaalayaal soo dhawaada waa mahadsantihiin annagoo dhanay nagu tahay fool xumo in sida u dhacaan wax qurux badan ma aha waa ceeb war meeshu waa masaajid ma aha istikhtim fi waddanka Holland waxa isaga qaldan istikhtim iyo fareyniqin iyo waxyaabo noocaas meeshan waa sax waa dawladda marka laga diiwaan gelinayo waa in rifti person waa in the forum fan istikhtim lagu soo qoraa laakiin meeshu istikhtim ma aha laba qof iyo saddex qof iyo afar qof iyo ma aha waa ka weyn tahay meeshu waa masaajid waa meel ilaahay lagu caabudo waa meel boqolaal sano sii jirayso ummadda Soomaaliyeed iska leedahay marka waxaan leenahay war walaalayaal ummadda Soomaaliyeed in laga xishoodaa fiican aqliguna soo noqdo caraduna ma fiicna diintana kuma fiicna dhaqankana kuma fiicna يعني waxaan aragnay يعني sidaas la isugu talax tago wax fiican ma marka soo dhawaada waa mahadsantihiin arintu bilow iyo dhamaad waxay tahay haddii la diiday sulux iyo heshiis in wax lagu xalliyo arintu iska sahlan tahay waxaad qabateen adikoo wada socdo waa ku mahadsantihiin laakiin waa in runta loo soo laabtaa oo ah ummadda ayaa meesha iskale u celiya qaabka u celi lahaydeen keena waa mahadsantihiin soo dhawaada injineerka la kuri marka waxaan geli doonaa haddii aan warbixinteeda isla soconno insha allah guddiga muddada uu jiray runtii warbixin badan oo qaarkoodna aan soo qaadanay qaar badanna aan ka tagnay duruufo jira awood oo ay ka mid tahay khilaafaadkii dhacay waxyaabo ay keeneen oo dokumentiya ah oo codad ah oo fiidiyoya ah oo runtii anshaxa awood oo ka xishoonaa jira oo aan meeshaa soo saari karin oo dad odayaal oo akhriyaar oo aan ixtiraam weyn waayn ay ku jiraan bas awood waxaan isku daynay wax kasta inaan ka dhigno bal qoraal oo aan qaab qoraala bulshadii ula wadaagno aan cod keenin oo fiideo keenin oo dokumenti sawiran oo qof magaciisa أو معلومات كيس وكبو قناة يعني صارين شاشة شرع وضع كبريفسي أول هي احترامكم مدير كيبت الدينات لبضل لكن وحدي حقيقة إلى جنان عبدالله كفيال خلافات كي دعي هي قوة كستاسية يضم مرفل كشيء لبضل نعم وحصوبة بيدو الناس لما تهديله وحيالات صوبوا لي وعقوب لاوين الجودة اسمها الجودة قال tallaabadii koowaad ee guddigan uu qaaday waxyaabihii uu la kulmay warbixintii halkan dhinac ahayd ee Sheekh Suldaan 13 bishii 6 waa maalinka la aasaasay guddiga maalinka ku xigay kulankii koowaad ee dhex maray guddiga xalinta khilaafaadka Amsterdam iyo bulshada Soomaaliyeed baaqashadii kulankii shaacinta ahaa ee heshiiskii la sheegay ee labada dhinac waxaa maqalnay mar heshiis la gaaray 6 qodob ah oo ummadda loo shaacin doono oo walaaluhu ay saareen xabadka oo lisku ooyay oo inta bashaki lagu qabtay ee ku sheegay guddiga Tilbrook maxaa baajiyay kulankaas waxaan kaloo kulankii labaad ee Sheekh Suldaan aan la yeeranay 19 bishii 7 2022 iyo wixii ku saabsanaa dabcan markii shaacintii ay baaqatay sheekhu waa noo yeeray isagoo dacwo ka ah dabcan guddiga Tilbrook waa la kulanay waxyaabihii sheekhu uu noo sheegay oo soo koobnay dabcan waa dhowr saacadood soconay ma keeni karin xiriirkii aan la sameynay guddiga Tilbrook iyo wixii aan kala kulanay markuu sheekhu ka dacwooday uu yiri dabcan guddigaas waa igu takrifalay oo marka hore waa u qoor dhiibtay waa sax laakiin qaabku ila dhaqmay ma ahayn qaab saxan ee idinku la xiriira waxaa la sameynay xiriir
xiriirkaas iyo waxaan kala kulanayna wadda u sheegi doonaa haddii ilaahay ballan danbaa jirtay oo aan ka codsanay qaybaha walaalaha guddiga ku jira oo markaas fasax ku maqnaa waa bisha 7 markaan sheekha la kulmaynay iyo waxay ku maqnaayeen fasax waa dadka kula qoran sheekha masaajidka waxaa jiray kulan labaad oo guddigu ummadda uu qabtay 11kii bishii 9aad 2021 oo aan jaariyadda ku qabanay oo aan warbixin ku siinay ummadda wixii noo qabsoomay iyo wixii noo qabsoomi waayo waxaa jirtay iyadana 5tii bishii 9aad 2021 guddiga Tilburg go'aankii uu soo gaaray oo qoraalka ahaa oo sheekha loo soo gudbiyey oo annaga aan qoraalkii aragnay oo aan hayno iyo waxa ku qornaa oo annagu aragnay dabcan inaysan sax ahayn wixii ka dhashay dhacdadii 14kii bishii 9aad dhacday ummadda Soomaaliyeed ee la yaabtay oo foolxumeed oo sheekh ku dhacday oo masaajidkii foolxumada faraha badan u keentay adduunka dhan laga fiirsaday runtii ummadda Soomaaliyeed qof kasta ay la yaabtay markay aragtay masaajidkii Amsterdam oo booliisku kabaad la galay 18kii bishii 9aad 2021 waxaan la kulanay guddiga Tilburg oo aan muddo 10 saacadood u fadhinay waxyaabaha aan ka wada hadlaynay waxaa ka mid ahaa dhacday iyo sida wax u go'aamiyeen iyo qaabkii wax u arkayaan isla hal markii 19kii bishii 9aad 2021 waxaa dhacay kulankii inta ka dhacay oo guddigaas ku shaaciyay go'aankii ay Sheekh Sultaan ka gaareen oo dabcan iyagu ay sheekha masjidka laga qabto go'aankoodu uu ku soo ururay uu qoran yahay warbixinta qayb walaala jirtay oo guddigu dabcan warbixinta la xiriirtay xiriir aan la sameynay oo aan ku ballanay 19kii bishii 9aad 2021 markuu kulanku inta ka dhacay oo guddigii 18kii aan kulannay ku dhahnay walaalayaalow khilaafkii ma dhammaanin arrintiina waa ka sii dartay suurtagal day tahay aan dib isugu noqonno maadaama aan weli u xallii karno hadday macquul tahay waxaa kaloo xiriir la sameynay ama nala soo sameeyey odayaal Soomaaliyeed oo raba arrintaas inay qayb ka noqdaan oo foolxumada dhacday runtii iyagoo meelahooda jooga ay la xumaatay intaas kuma simin waxaan sameynay waxaan kaloo dirnay ergo reer Amsterdam maadaama guddigu ay noo arkayeen inaan dhinac nahay oo ay u arkaan inaan sheekha la safarnahay marka si kale loo yiraahdo si khilaafka loo xaliyo waxaa qasab ah in annaga kaliya ugu koobnaan oo ummadda Soomaaliyeed cid kasta oo waxgal ah ay arrinta gasho oo khilaafka la xaliyo taas anaga muhiimadeena ahayd waxaan dirnay rag odayaal oo reer Amsterdam oo iyaga laftirkooda xalka qayb ka noqday laakiin markii dambe la soo noqday warbixin aan ummadda ka farxin waxaa kaloo waxaana soo codsaday gabdhahii Soomaaliyeed ee Amsterdam oo guddiga iyo sheekhaba la kulmay oo aan la hadalnay oo aragtideena u sheegnay oo sidaan wax u arkayno oo xalka u sheegnay sheekhu uu la hadlay runtii muxaadaro dheer oo uga hadlaayo sida dib u soo gaaray sheekh waxaa kaloo halka masjidka aan kala kulannay oo kala hadalnay Shire Maxamed Siyaad oo ka mid ah odayaasha reer Holland kana mid ahaa dadkii masaajidka asaasiyaashiisii ahaa muddo 12 sano aan u shaqeynay masaajidka oo u soo ururinay dabcan waxyaabaha masaajidka lagu dhiso oo kharashaadka oo meel kasta u galay oo aan u arkaynay in odaya oo ixtiraam ku leh labada dhinacba xal la keeni kara haddii fursad loo siiyo isagiina warbixinta uu soo tabiyey kulligii waa aragteen inay ku jirtaa YouTube intaas kuma simin waxaan xiriir la sameynay Sheekh Shibli Sheekh Maxamuud Shibli khayr Allah siiyo maadaama uu muxaadaro soo dhigay oo uga hadlaayo khilaafka oo qayb ahaan runtii aad deem u ahayd laakiin markaan si hoose u fiirsanay inteeda badan kusoo uruureysay Sheekh Sultaan meesha iskaga tag marka si kale loo yidhaahdo muxaadaradaas annagoo daba soconna sheekhana ixtiraamkiisa iyo qofnimadiisa og iyo ummadda Soomaaliyeed siday ugu xelan tahay inuu xalka bal qayb ka galo oo miisaanka iyo culayska uu leeyahay uu isticmaalo sidaas awgeed sheekha dib u wacnay laakiin waa halin weyn waxaa mar kale lagu soo noqday Sheekh Shire waa Shire Maxamed Siyaad oo lagu yiri suurtagal ma tahay inaan walaalaha masaajidka joogo idinla kula siino oo bal aad wax isdhahdaan maadaama aad kulmina marka laga reebo kulankii 12kii bishii 6aad 13kii bishii 6aad 2021
oo ahayd maalinkii koowaad oon kulanno iyo maalinkii mas-uulkeed dambaysay guddi ahaan arrintaas horta waa ka aqbalnashee laakiin wuxuu nagula soo noqday walaalihii inay iska diideen dabcan oo shirkaas aysan rabin waxaan isku daynay in aan ka hortagno inaysan dhicin maxkamad oo laga baaqsado runtii maxkamadda iyo duruufaha keenay oo ka hadli doono haddii laga baaqsan karo oo shuruudaha sheekhu uu wato oo runtii xaqna u leeyahay iskana sahlan maxkamaddaasna looga baaqsan karo oo labada dhinacba runtii aan faa'iido u ahayn masaajidkana faa'iido u ahayn si kale loo yidhaahdo iyadiina waa soco weysay arrintu waxay ka fursan weysay in albaab kasta oo sulxi ah uu soo xirmo dhismaha guddigan sidaan hore u sheegnay waxaa la dhisay kadib markii uu batay walaaca bulshada Soomaaliyeed ee waddanka degan ay ka muujisay khilaafka masjidka waxaa la dhisay 12 bishii 6 2021 jaaliyadda Soomaaliyeed lagu dhisay ugu yaraan dadku tumeeyo qof ah oo meesha fadhiyay oo ka mid ahaa odayga oo Xaaji Mayo Xaaji Cabdikariin rag markaas oo asagu arkay akhyaar dabcan soo magacaabay qof walba hebel doorasho ma ahayn cod loo qaaday oo sidaas lagu galay guddiga mana lagu qaybin qaabka Soomaalida ku qaybsato ee waxa lagu qaybiyay guddigu guddigaas xilligan uu ka kooban yahay dadkaas meesha ku aragtaan waa Ali Cabdiwaare doctorka Ahmed Cismaan Ahmed Qalile qoraalkii ku xiga Faysal Nur Ali oo aniga ah Sheekh Xasan Aadan Diiriye oo ku xiga Cabdiqaadir Ali oo qoraalka midigta u xiga ah guddigeen intaas waa ka kooban yahay waxaan ugu jiray injineer Abukaate Muuse oo guddiga ka baxay sabab asaga u qaasan qofkii rabtana waa weydiin sida hore u sheegay tilaabada koowaad oo guddigu u qaaday waxa isla goobtii ugu doortaba ku qabsanay guddiga kulan oo la xiriira bal arrinta khilaafka maadaama ay culus tahay inaan galno sida ugu dhaqsaha badan oo waqti badan aan ugu lumin 13 bishii 6 oo maalinka la doortay maalinka ku xigta ah waxaan xiriir la sameynay oo la yeelanay kulan walaalaha labada dhinac Sheekh Suldaan iyo qaybaha kale ee masaajidka walaalaha runtii intaada wax gelin waxa qasaba inaad weydiiso su'aalo mudan qofku markuu guddi noqonayo waxa qasaba wax loo dhiibanayo barorta marka hore inuu weydiiyo su'aalaha soo socda waa weydiinay walaalaha khilaafka in ka dhaxeeya ma mid shakhsi u dhaxeeya mise waa khilaaf maamul dabcan haddii khilaafku mid shakhsi yahay waa fududahay qaabka loo xaliyo haddii maamul yahay daran qaalo waxay noo sheegay khilaafkaas inuu yahay mid maamul oo istikhtinka ku saabsan oo leh nidaamyo kala duwan dabcan waxa la isku haysto waxyaabo kala duwan qofka si u arkay waxaan kaloo weydiinay sidee guddiga Amsterdam ee la dhisay u aragtaan walaaluhu waxaan ku dhahay waa maqalnay waana la soconay waana soo dhaweynaa dib u maarag waxaan weydiinay xal u helidda khilaafka ma geli karnaa waxaan ugu dhaheen maya waa labada dhinac waxaa ku jira guddiga Tilbro oo aan qoor dhiibanay saas awgeed laba guddi iskuma qorfuri karno waa ku mahadsantiin runtii waa ka aqbalnay sababtoo ah ma fiicno in la isku dhinac ordo nimo odayaal oo khiyaara oo masaajidka soo dhisay oo qayb weyn ka ah maadaama ay guddiga yihiin oo culimo iyo dad waaweyn oo khibrad wala iskugu jiraan waa ka aamusan runtii waxaan weydiinay ma ogaan karnaa labada dhinac wixii ka soo kordha maadaama khilaaf jiro annagana umadayna soo magacaabatay magaaladan aan degannahay wax badan oo xoogan aan u baahannahay inaan ogaano suurtagal ma tahay inaan la soconno bal waxa ka soo baxa dhinacyadaas aad guddiga wax u dhiibateen guddiga iyo idinka waxaan ugu dhaheen waa sameynaa diraan waxaa jirtay warbixin hal dhinac ah oo isla maalinkaas aan la yeelanay Sheekh Suldaan maadaama labada dhinac Soomaalikaas baan la kulannay dabcan sheekhu uu ka duwanaa walaalaha oo iyagu muddo gaaban oo kooban oo xadidan oo aan dhamayn musaacad u badato aan la yeelanay su'aalahan markaas weydiinana wixii ka dambeeyay salaada casar la kala daan qodnay kadibna fursad dambe inaan isku soo noqono waa ka cudur daarteen waa ka dhamaanay sheekh aan la hadalnay oo la fariisanay sheekhu wuxuu noo sheegay dabcan warbixin dheer oo intaan ku soo koobi karin maadaama
ilaa haddaba aan u aragno sheekhu inuu dhibana ahaa runtii uu ka cabanayay habdhaqanka iyo qaabka loola dhaqmay wuxuu qaatay waqti dheer uu noo sheekeynayo khilaafka siduu wuxuu arko oo dhibka soo gaaray sida loola dhaqmay runtii kulankii koowaad ee dhex maray guddigeenna iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan bulshada Soomaaliyeed kula soo noqonnay waxyaabihii ay dabcan noo direen si aan wax uga ogeysiino waxaan soo qabanay wixii noo qabsoomi waayey meeshay wax joogaan xaqii nagu lahay inaan soo noqonno waxaan bulshada u sheegnay in annaga ka guddi ahaan arrintaas aan geli karin oo ay naga xiran tahay oo guddi tilbur ku jiro odayaala oo loo qoor dhiibtay iyagana aan ka war sugno waxaan kaloo bulshada u sheegnay guddigaas inuu haddii ilaahay uu asaga loo qoor dhiibtay inaan ka war sugno aan ka hordhicin waxaa jiray kulan koowaad oo dhex maray maxaa la yidhahdaa bulshada Soomaaliyeed iyo guddiga waxaa baaqday kulankii bulshada Soomaaliyeed waxaan u sheegnay inuu baaqday kulankii shaacinta ahaa oo 6 qodob oo guddiga tilbur uu gaaray dabcan oo sheekhu noo sheegay in 6 qodob lagu heshiiyey ay socon weysay saas awgeed shaacintii kulankii ay sheegay guddiga tilbur oo baaqday waxa heshiiskaas lagu gaaray masaajidka si sheekhu noo sheegay waa shaacintii waa 6 qodob 27 bishii 6aad 2021 waxaa lagu ballamay in la fuliyo wixii lagu heshiiyey heshiiskana lama qorin balse af ahaan ayaa lagu heshiiyey si sheekh dhowr jeer ugu sheegay 6 qodob kulankii labaad ee Sheekh Suldaan aan la yeelanay 19 bishii 7aad 2021 waxyaabo ku saabsanaa markii shaacintii ay socon weysay oo 6 qodob lagu heshiiyey oo umad in loo soo bandhigo dabcan annaga aan hore u sheegnay ay fuli weysay sheekhu waa nagu soo noqday asagaana soo codsaday oo soo wacay waa u tagnay sheekha wuxuu noo sheegay 6 qodob ee lagu heshiiyey shaacinteeda loo balansanaa inay socon weysay meeshaas Sheekh Suldaan wuxuu noo sheegay sababta ay u socon weysay sheekhu wuxuu soo bandhigay warqado ay ku qoran yihiin waxyaabo ka baxsan wixii lagu heshiiyey oo 6 qodob ah warqadahaas runtii waxaa ku qornaa waxyaabaha halis gelin kara heshiiskii 6 qodob ah oo annagu waa akrinay guddigu waa arkay shaqana kuma lahayn heshiiskii 6 qodob lagu heshiiyey waxaa ku qornaa waxyaabo liddi ku ah runtii processka sheekhu ku jiro bistaarka xilligaas meeshaas Sheekh Suldaan wuxuu naga codsaday inaan guddiga tilbur oo guddinimada ugu qoor dhiibtay oo warqadahan ogaa aan dib ugu noqono waxaan sheekha weydiinay sheekhu suurtagal ma tahay inaan guddiga ku noqono maadaama adigu aad u qoor dhiibatay oo aad noo sheegtay qoor dhiibashadaas annagana aan nahay guddi ummaddu ay soo dirtay oo aan loo qoor dhiiban labada dhinac wuxuu nagu yidhi waa sax oo u qoor dhiibtay laakiin xilligan waxyaabaha ay ku jiraan ma aha waxyaabihii aan qoor dhiibashada kula heshiiyey isku daya baa inaad weydiisaan warqadahan iyo waxa ay ka og yihiin xiriirka aan la sameynay guddiga tilbur iyo waxyaabihii aan kala kulanay waxaan xiriir la sameynay xiriir kala duwan la yeelanay guddiga tilbur si arrintaas aan Sheekh Suldaan ka soo dacwooday aan wax uga weydiin waxaan la hadalnay Xaaji Maxamuud oo guddiga ka mid ah waxaan kaloo la hadalnay Sheekh Maxamuud oo guddiga ka mid ah isla xilligaas oo reer Doofan ah waxaan weydiinay cabashada sheekha labadaas oday bas uga hadlay dabcan oo waxay ka bixiyeen information kala duwan Xaaji Maxamuud wuxuu ka hadlay inuu heshiisku weli socdo warqadihiina wuxuu sheekhu ka cawday dib ay iyagu ay u fiiriyeen oo ay wax ka bedelayaan Xaaji Maxamuud wuxuu ka hadlay in arrintaas runtii asaga aysan la qumaneen qaabkooda u socdaan walow aan aragnay guddiga tilbur qaniinta ka sheegeen xaajigu uga baxay duruufaha asaga u gaar ballantii dambe oo aan ka codsanay qaybaha walaalaha ee guddiga quba maadaama aan sheegnay hadaayi oo iyagu maqnaayeen guddiga qaybaha kale oo ay safar ku maqnaayeen xilligaas bishii 7aad guddigii tilburqna aan warbixin saxan ka heli weynay sheekuna uu leeyahay dacwadii bisfaarkii aan gudbiyey waqtigeediina waa socdaa warqadaha la iga saxiixay oo la leeyahay waxa lagu soo celinaa meeshana masaxna suurtagal ma tahay in waqtiga inaan la iga dilin oo go'aan la keeno ama guddiga go'aan sax keeno
ama bisbaarkaygii aan ku noqdo waxaan ku qasbanaanay guddiga tilbrookna maadaama aan wax ka weynay in aan ku noqono walaalaha aan ka warsugno markay safar ka soo noqdaan kadib markaan ka quusanay guddiga tilbrook waxaan isla qaadanay inaan ka warsugno walaalaha kale inta ay safar ka soo noqonayaan waxaan u dirnay markaan annagu weynay marka walaalaha ay ballan noo samay waayeen oo runtii dhowr jeer aan isku daynay waxaan u dirnay qeybo ka mid ah guddigeenna oo aan qof xataa bal inay warbixin uga keenaan laga yaabaa inay guddiga qayb diidan yihiin bal qayb inay aqbali karaan guddiga qaybo badan oo ka mid a way la kulmeen si shaksi ah annagoo guddi ah dhib kuma qabin maadaama xal la raadinayo laakiin waa diideen qaab guddi oo guddinimo ay noola kulmaan oo aan weydiino warbixintii qof guddiga ka midana guddiga magaciisa intuu ku hadlo warbixintaas iyaga waxba kama weydiinaya maadaama guddinimo marka hore in lagu qaabilaya waxay naga diideen in guddi ahaan ay noola kulmaan waxaan si dadban iyo si toos ahba ugu dirnay dad kale oo bulshada ka mid ah waana soo diideen runtii dad badanaa jiray oo soomaaliyeed oo magaalada joogay oo iyaga isku dayay inaan annaga iyo iyaga bal sida iyagu arkayaan aan wada hadli karno waa xilligii aan qabanaynay shirkii hore agteeda oo xataa nagu yidhi shirki joojiya bal hala baajiyo bal u kaadiya walaalaha la kulma waxaan ku dhahnay kor iyo hoos waa ogol lahay laakiin idinku ka keena bal inaan la kulmi karno aadanka waxay ku dhamaatay in la diido ama markaan kulanka qabanayno maalinka ugu dambeeya la yidhaahdo joojiya caawa kulmaynaa waana dabcan waqti dambe waa socoweysa kulankii labaad ee guddiga khilaafaadka xalinta khilaafaadka bulshada absidaam uu la yeeshay 11kii bishii sagaalaad 2021 waxaa kaloo waxaa nala soo xiiray bulshada qaybaheeda kala duwan oo naga codsaday maadaama waqtigu dheeraaday guddigii tilbruuqna uu wax keeni waayey heshiiskii 6 qodob ah lagu heshiiyeen ay socon waayeen walaalihiina ay soo noqdeen annagiina aan iyagii la xiriir laanahay bal wixii aan ka kulannay mar labaad inaan bulshada kula noqdo waxaa sidoo kale kulankaas naga codsaday sheekh suldaan inuu nagala qayb galo oo aragtidiisa oo bulshada u sheego siday asaga la tahay maadaama uu mar walbaa sheekhu u diyaarsan yahay si furan oo saan oo kale ah inuu bulshadiisa ula hadlo warbixintana siiyo oo dhinaca kale walaalaha kale aan jeclaan lahayn inay sidaas oo kale sameeyaan waan ku casuumnay sheekha wuxuu meesha ka jeediyey warbixintiisii oo ummadoo dhan ay wada fiirsatay oo uga hadlaya khilaafka iyo wixii keenay meelaha walaalaha isla mareen guddiga tilbruuq iyo qaabkay ula dhaqmeen iyo meeshay ku kala labaadeen waxaan go'aansanay in aan bulshada uga warbixinno meeshay wax marayaan 5tii bishii sagaalaad 2021 wuxuu gaaray guddigii tilbruuq qayb ka mid ah guddiga tilbruuq oo dhan ma ahayn qayb ka mid ah xilligaas waxaa ka baxay guddiga xaaji sheekh maxamuud oo ka baxay 3dii bishii 8aad 2021 oo sheekh suldaanna uu cadeeyay inuu guddigaas iskaga baxay isagoo sheekh la hadlaya dabcan sheekh wuxuu noo sheegay inuu codkiisii oo soo duubay wadaadka uu haysto oo uga baxay maadaama wixii lagu ballamay aan la fulinaynin oo sheekh aan meesha lagu soo celinaynin asaguna inuu kasii mid ahaado ay la xun tahay runtii meesha markay inta ka sheegayeen walaalahooda waa sheegay qayb ahaan walow qaab kale u sheegay oo ah meeshaan u soconnay oo ahayd qurfa tijaariyada sheekha in lagu soo celiyo oo kaamarka koob hadalka ah waa dhici weysay marka meeshii aan u soconnay safartii waa gaari weynay waa ka harka waa hadal baldaan oo runtii aan fahmi karno sheekha durfo badan laga yaabaa inay ku qasbeen inuu saas u hadlo laakiin isagoo caddaynaya oo leh waa ka baxay oo sheekhu oo sheekh suldaan uu haystaa oo si cad u sheego waxaan guddiga ka baxay sheekh maxamuud sidaan uu sheegay waxaan helnay go-aankaas oo qoraal ah go-aankay soo saareen 5tii bishii sagaalaad oo qayb ka midana af Netherland lagu qoray oo weliba ujeed gaara laga lahaa marka go-aanka oo dhan la wada fasiro waxbay ahaa lahayd oo sideeda xataa loogu diro kaafikaada laakiin go-aanka waxaa laga fasiray qayb yar oo iyagu ay isleeyihiin waxay liddi ku tahay oo ay taageeri kartaa dhinaca kalena sheekh suldaan waxaa ka dhashay go-aankii guddiga tilbruuq dhacdadii 14kii bishii sagaalaad 2021 ka dhacday oo sheekha booliiska loogu keenay oo loogu yeeray
oo ummadii Soomaaliyeedna ay ka argagaxday runtii oo foolxumada badneed oo habeenkeediina sheekh asagoo ooyay oo soo duubay warbixin uu leeyahay waxa warqad la ii keenay 6 saac ama 12 habeenimo oo aan boosto shaqaysa iyo cid shaqaysan jirin oo qofku ku soo garaaca laga yaabo inuu ka shakiso xataa inuu ku dili karo oo ay tahay xilli cabsi leh sheekhu arrintaas waa ka gashay wuxuu diray ummadda Soomaaliyeed oo fariin uu leeyahay warqada la ii keenay ay ku lifaaqan tahay guddigii Tilbrook waxyaabihii aan ku wada hadalay qaybta iyagu ay u arkayeen in uu xaqinayso dhinaca kale ay ku lamaana tahay wuxuu dhan waa haynaa kullu waxaa go'aankaas ka dhashay in sheekha masjidka looga saaro waxaana go'aankaas qayb ka mid ah si ku talagal ah loogu tarjumay oo loo adeegsaday dacwadii kaafikaanka waana qoran tahay maalinkaasna iyadoo weliba kaafikaanka horseedkii lagu jiro 14 bish sagaalaad waa loo isticmaalay guddiga Tilbrook in uu wax ka ogaa arrimo badan oo xataa aan dastuur ahaan ku habboonayn in la yiraahdo waxbay ka ogaan waxaa go'aankaas lagu lifaaqay shaqo joojinta sheekha waa lagu lifaaqay oo sheekhu wuxuu la tusiyey shaqo joojintii iyadoo ay la socoto warqadan oo go'aankii guddiga Tilbrook runtii shaqada iskuma laha shaqada qofka laga joojinayo si sharci shaqada uu qabo waxa looga joojiyaa nidaam shaqada la xiriira oo qaladaadkii shaqada ah ee nidaamka guddiga Tilbrook oo meesha ku jooga shaqo ma ahayn waxay ahayd arrin maamul oo khilaafkii guddiga walaalaha ka dhacay inay xaliyaan inay masjidkii halkiisii meesha laga raadiyo oo la wada shaqeeyo sida ay dhowr jeer sheegeen oo inta aan ku hayno guddi sare oo masaajidka maamulana loo dhiso ragga walaalaha ay wada shaqeyn karaan laakiin guddiga Tilbrook awoodoodii ma isticmaalin waxay u adeegsadeen kaliya sheekha inuu meesha ha baneeyo sida warbixintooda ku qorneen waxa iyagu ujeedada ay ahayd waxay guddiga noo casuubeen marka aan kala kulannay iyagu ujeedkooda sida ay ahayd bal inaan iyaga ku raacno go'aanka ay qaateen oo weliba ay nagu yiraahdeen haddaad nagu raacdaan oo nala fariisataan waa ficnaan lahayd oo 19 aad nala tagtaan meesha guddi ahaan waa noo cunto mugeysay maadaama qoraalka ay soo saareen intiisa badan aan anagu fahamnay inuusan ahayn qoraal dhexaada oo hal dhinac u xaqiijiya waxaan xaq ugu leenahay inaan la saxno kadibna aan raacno oo la fariisano oo sidaas go'aan wada jira aan ummadda u sheegno akhyaar badan oo guddiga ka mid ah ay ku yiraahdeen waxa ficnaan lahayd inaan ummadda la wada fariisano laakiin sida hadda wax ku wadaan guddi ahaan kuma fariisan karno waa inaan wax ka bedelnaa qaabka aad go'aan ku gaarteen guddigu waa iska diiday maadaama uu arkaayo asagu inuu saxan yahay oo dhowr jeer siday sheegeen ay waqti siiyeen labada dhinac sheekuna uu diiday saas awoodda ay go'aankooda ku saleeyeen laakiin go'aanka markaa akhriso intiisa badan ma qusaynaayo khilaafaadkii sheekha iyo walaalaha waa qaybta iyagu ay go'aan ahaan soo saareen wuxuu qusaynaa oo keliya inta iyagu ay u arkayeen sheekhu inuu ama yani lidiga ku ah marka si kale loo yahay waxaan wada hadlaynay muddo ku dhow 10 saacadood waxay noo sheegeen in masjidka xag maamul ahaan uu halis ku jiro iyagu laftirkoodu waa ogyihiin masaajidku inuu halis ku jiro oo qaabka wuxuu socdaan aysan saxnayn guddiyada qaabka masaajidku u dhibaysan yahay aysan saxnayn shaqada qaabka loo wado ay u arkayaan inay qaldan tahay intan waa ka sheegeen oo sheekh maxamed saciid oo ka hadlay waa tu lahaa masaajidka maamulka jooga iyo runtii masaajid sidaan oo kale ah isma laha waxay kaloo noo sheegeen in lacagtii masjidka runta laga hadlo qayb ahaan lagu takrifalay oo iyaguna hadda ay inkireen oo wax takrifala ma jiro ay yidhaahdeen walow takrifalka qof bas u yaqaano oo sheekhu markuu meesha ka hadlaayeen uu yidhi ammaanada sidaan wada ognahay lacagta masaajidka loo ururiyey waa lacag ammaano ah oo walaalaha loo dhiibay oo ummaddu ay ururisay xataa dayn lagama bixi karo sida culamadu ay noo sheegeen xataa qof dayn lagama siin karo laakiin waxaa noo muuqanaysay in daynna laga bixiyey dad kalena la siiyey qaar kalena aan la caddayn karin xataa qaabka oo loo siiyey iyo qaabka loo soo celiyey warbixintaasoo inta badan laga yaaba xataa in caddeemaheedii ay yaallaan waxay kaloo noo sheegeen arrintaas waa arrin aan caddaynteeda qayb ka mida la heli karo haddii loo baahdo maadaama aan guddi nahay wax badan inaan meeshaan saarno waa ka xishoonaysaa hore u sheegnay oo codad leh oo muuqaalo leh oo qoraalo leh 19 bishii sagaalaad 2022 waxaa dhacay kulankii guddiga Tilbrook intay ku qabteen
oo ummadda igu sheegay go-aanadii ay gaareen kulankaas guddigu wuxuu ka sheegay wixii aan uga digayna runtii habeenkaas waxaan uga dignay in aysan ummadda u sheegin waxyaabaha meeshaan ay kusoo qoreen oo ahaa sheekha qaldan oo aysan caddaynayn wuxuu sheekhu qalday dhowr jeer aan weydiinay sheekhu haddii maamulka ay ka wada tirsan yihiin maamul ahaanna waa wada qaldan yihiin waa wada fahmi karaan haddii laakiin aan leedihiin sheekhu waa qaldan yahay maxaa sheekha u gooniya oo asagu ku qaldan yahay يعني قفكم وحا مهم إنه قلق كاشافيو وإلى هذا الشيخ واحد يقولي وحني وحن لكن ما جبت هل عضينا أو يبغى إني كلام مثلا وحنا أنا دي العيال الوجهية أو خلافات والعكس تسافسين يعني الشيخ العقية هي هذا يجي تبع أما هؤلاء أما يوصل أوغاني كما صار يسمى ده وما مو الفجر لكن ما هي مدعوة يسي هذه العكس تسافسين تاعي إني مسؤولين وضرين وذليين ما دام استقتيين قدوا وين وحلول يبتليين xubno tiita ku magacaaban oo qof walba oo mas'uuliyad saaran tahay sida istadikooda ugu qoran ay ku kala magacaaban yihiin waxay ku jawaabeen sheekhu asaga sheekhi ahaa waxaa loo baahnaa ammaanada inuu ilaaliyo oo lacagtaasna oo asagu ilaaliyo dabcan erey saxan ma aha marka qofku in leeyahay ammaanada waa la wada yaqaanaa qof kasta og yahay dadku ma aha dad sabi ah oo caruur ah oo loo sheegayo waa dad waaweyn oo caaqiliin ah oo qaangaar ah qaarkood aqoon-yahan yihiin oo la socdaa nidaamyadan oo kale oo og dambiyada ka imaan kara waxaa kaloo wuxuu kaloo noo sheegay guddigu ay noo sheegeen in sheekh suldaan uu xal kasta diiday xal kasta marka la yidhaahdo waa fahmi weyn waxay xal kasta ula jeedaan sheekhu wuxuu diiday in walaalaha uu la heshiiyo mise wuxuu diiday guddiga loo qoorintay waxyaabihii ay soo bandhigeen oo saxnaa waxa uu sheekhu diiday oo noo sheegeen runtii oo ku qanci karnay ma jirin waxay kaloo sheegeen in sheekh suldaan uu u dacwo tegay hay-adaha waddanka sida field booliiska iyo guddiyo kale runtii aad aan wuxuu dhahay sheekh in la masabitay sheekhu field ma aadin mana dhicin oo field aado waana field waa hay-ad weyn oo arrimaha fraudka iyo waxyaabaha blastica iyo lacaga la isdabamariyo shaqo kule ciddii gashana iyadaa raasata sheekhuna ma wicin wax field la yidhaahdo sheekhu u dacwo tegana ma jiro laakiin waxaa jirtay dabcan haddii arrimuhu ay sida ay ku socdaan ma wax sheekha u gooniya iyo wax ayaga u gooniya wax dhici kara waddanku nidaam uu leeyahay booliiska sheekha la sheegay inuu u dacwo tegana waxyaabaha uu sheekhu ka dacwooday si public uu dhowr jeer u sheegay waa la igu been abuurtay waxaa dhacday been abuurad marka qofka lagu sameeyo siduu sheekhu sheegay dabcan annagu ma xaqiijin karno siduu asagu sheegay waa la igu been abuurtay been abuurad marka lagu sameeyo xaq waxaa u leedahay inaad booliiska tagto oo aankirta ka samayso waa caadi waxaa kaloo oo eedaha waxaa kaloo lagu eedeeyay in wax kasta oo tuhun ku dhiso sheekhu tuhun in wax kasta ku dhiso oo walaalaha uu qabyaalad ku tuhmay oo sidii guddigu ay sheegeen sheekha markaan inta weydiinay ereyga qabyaalad waxaa laga fahansanya macno badan qabyaalad markaan ku qacdabiya la joogo waa koox isku gruub ah oo iyagu iswataan sheekhu dhowr jeer wuu sheegay oo muxaadaro uu jeediyo wuxuu ku sheegay inuusan ula jeedin qaabka soomaalidu qabiilka u taqaane kooxda iswadata inuu ula jeedo oo saas ummadda uu ka shaafiyey oo ummaddu ay wada dhegaysatay guddiga tilburuk dib aan ugu noqonnay maadaama aan ku ballannay 18 markaan wada hadalnay inaan wuxuu dhammaanaynin oo aan dib iskugu soo noqonno bal ummaddii xal in loo raadiyo 19 kulanka ay gaareen wixii ka soo baxay kadib waxaan ku ballannay guddiga tilburuk inaan dib isku aragno maadaama aan weli masjidkii xal laga gaarin waxaan ku ballannay in masjidka loo dhiso maamul adag oo iyagu ay ogolaayeen maamulka ka adag oo hadda nidaamka wax ku dhisan yihiin ka adag iyagu waa ogolaayeen laakiin guddiga tilburuk dabcan nama soo xidhiidhnay laakiin nagama aqbalin waxaan isku daynay inaan dib ula xidhiidhno balse nooma soo jawaabin meeshaas waxaa ku go-ay xidhiidhkii aan la lahayn guddiga tilburuk waxaa masaajidkii xalkiisu sii galay xaalad adag oo cabsi badan runtii waxaa ummadda u qaybsantay kooxo oo cadda in ummadda u qaybsantay kooxo oo maanta ay taallo magaalada amsterdam gudaheeda oo joogno dadkii inay u qaybsan yihiin kooxaysi oo masaajidka tiimka joogaana dabcan ay sabab yihiin waayo dadku hadday og yihiin ummaddu inay heshiis ku tahay in masaajidka laga heshiin karo qaybsanaanta ma dhacday waxaa nala soo xidhiiday odayaal soomaaliyeed oo rabay inay halkan qayb ka noqdaan
maadaama ay arkeen laftirkoodu inay miisaan leeyihiin ummadaan ay wax kusoo biiriyaan ay rabaan waan la soo xiriireen waxaan istusnay in arrintaas aan halkaas looga harin ee xalkeeda lasii raadiyo guddi ahaan oo odayaasha laftirkooda la waco waxaan casugnay odayaal noogu yimid oo meel ku casugnay ku wada hadalnay bal inay iyagu xalka geli karaan waxaa nala soo xiriiray akhyaar kaloo badan oo dalka qaybihiisa kala duwan jooga oo arrintaas aad uga murugsan waxaa ka mid ahaa maxamuud cilmi oo nala jooga aan rajaynayo odayaashaas ka mid a rag kaloo akhyaara waxaa kaloo ka mid ah korneel mustafe iyo rag degan kabeella cadda aysal oo maanta xataa rabbi lahaa kulanka ay yimaadaan duruufo jir awood u baaqday laakiin naga codsaday inaan bal aan wacno hadday suurtoogayso anigu waxaan ahay raggii markii ay dhacday sheekha in laga saaro masaajidka kuwa helay dhibka jira isla markiiba sida runtaa waxaan la xiriiray anigoo shaksiyan keligay aan cidna matalaynin ninka la yidhahdo sheekh ibraahim telefoon baan u diray waana iga qaadi waayay sida runtaa dhowr jeer baan garaacay oo wacay waana iga qaadi waayay fariin baan u duubay markaa fariintii weli telefoonkaydii ku jirtaa markii dambe uu igu soo celin waayey waxaan la hadlay sheekh suldaan sheekh suldaan waxa uu aqbalay sida runta ah codsigaygii ahaa in uu maslaxaad ka shaqeeyo halkaa kumaan harin anigu waxaan ku dadaalay in frieslandka odayaasha jooga aanu la xidhiidhno in axmed faarax la yidhaahdo oo isagana aan muddo dheer isnaqaanay iyo sheekh cabdisalaam oo isaguna degan magaalada herafeyn arrinkii ma dhex gallaa hadaynu reer friesland nahay sidii baanu ku heshiinay waxaan loo soo xidhiidhnay ninka la yidhahdo sheekh shire oo aanu u soo dirnay markii dee telefoonadiina laga qaadi waayey waxaanu la soo hadalnay sheekh shire ayaanu u dhiibanay warka annaga oo frieslandka inaanu arrinka dhex galno iyadoo sheekh suldaan aanu ka haysano ogolaansho sidii baanu ku wargelinay sheekh suldaan wuxuu nagu soo celiyey muddo ka bacdi in ay ka cudur daarteen sheekh shire inay ka cudur daarteen la kulankii ama la hadalkii aanu la hadli lahayn odayaasha ku haray masaajidka dhalinyara lagu sheega sida runtaa laakiin waa niman odayaala marka odayaashii masaajidka ku haray sidii baan ku wargeliyey nimankii aanu dee wada soconay marka waxaan filayaa in dad badan oo sidaas oo kale ah ay u galeen arrinka maslaxadda masaajidkana jecel yihiin waxaan sii raacinayaa intaa markaan kaga baxo xiriirkii aanu samaynay qoladiina amsterdam degan kolle anagu dhaliilo badan baan noo haynaa guud ahaan waayo anagu waan idinka fognahay caruuraha iyagii may helin janska ah hesheen masaajid baa laydin iibiyey oo caruurihiina aad wax ku bartaan aad ku tukataan si runta ah dadka aad lacagta ka soo ururiseen waxay ku jiraan jeelasha carruurtoodii qaarkood diin la-aan baa haysata tuulooyin bay degan yihiin dhib badan baa haysta nimcadaa inaad ku mahadnaqdaan bay ido ilaahay u mahadnaqdaan oo arrinkaana si wanaagsan u gashaan waxaan jeclaan lahaa in halkaa aan lagaga harin odu way iska socon karaan iyadoo maxkamaddu jirtana si runtaa waa la heshiin karaa aslaaxa in laga shaqeeyaana waa waajib waxaan jeclaan lahaa in islaaxii la sii wado oo gurubaysigan iyo waxaan la wado laga baxo oo sida runta ah qofku markuu khaldan yahay qofka muslimkii in uu khaladkiisa la tuso weeye loo caqli celiyo lala taliyo oo wixii jira magaranaysa xal loo doono aad baa umahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sida odayaashuba hadda ay sheegeen walaalaha hadalkooda wuxuu kusoo dhammaaday waxaa jirta maxkamad waxaa jira guddi aan qoor dhiibanay oo tilbruq ka yimid dadkaas keliya la hadli karnaa cidna lama hadlayno sida muuqata dabcan dadku waa lala hadlay laakiin hadalku waa inuu natiijo dhalo ama qofku uu garnaqsado ama gar yeeshu yidhaahdo waxaasaan rabaa sida la ogyahay sheekhu arrintaas waa ka hadlay wuxuu yidhi masaajidka waxba anigu dhib gooni walaalaha uma qabo haddii aan masaajidkii ku noqonayo runtii ma aha wax culus
وواحد حق ليه سيدا مامور أنت كلام أي حق ليه وأصل حق ليه المساجد يكون نقضه شغال سيدا وصيوته وليه باهي بدلنا والله قبي إلا هذا والله قبل شيخنا وقرأت مساجد كتير وذوقنا هاي جمعة كستو أصوبرنا ولاد مروكانا وأنا صلاة النجبحي هذا هو حلنا إنه أبو سلام جونا أو الشيخ سلطان أو نلنت جيني هاي أو الشيخ البلد اللي هاي إن أكو احترام وإن حتى جمعة النجبحي حتى يدو كلام تلك وحين بسوع اللي والله عند السنة إن الشيخ سلطان أو الربو الدين الفليو طبعا الشروطي هذا الشيء إنه كم تايم وكل نقطة مساجد كي ما ممكن كل الشيخ سلطان وياه الفورسي ترنا وحواجب الأولى النظامي إنه لصق على الدقائق معمول وهي كم بنقية إنه لصق عكره وهي كم على هذا إن هوشي مساجد وكونه عالي أهل وهذيك بيشد أولي لما قرروا الناس تجنوا وياه فورسي تر وقصة بركة فريسي اللو عليو شروط النوع عصر الشيخ سوق بي أو سدحة أو فرع اللو عليو شغال يسي أو وطو في البوت ببنتها أو إسارنا أي كقادر waxaan soo codsaday gabdha Soomaaliyeed sidii sheegnay iyaga laftirkooda arintaas runtii aad uga walaacsanaaday oo ka xumaaday markii ay dhacday oo warbixinna aan ka helin inta badan gabdhuhu rag waxay u yihiin warbixin badan kama helaan dhacdooyinka maadaama aysan gudiyadana ku jirin xiriirkana leeyahana uu yar yahay waxay arintaas ka muujiyeen walaac waa soo codsaday gudiga waa la kulannay khayraasi walaashii sucaada ka joogta qabaqaabiyaashii gabdho badan oo ka soo qayb galay oo ka mid ah gudiga oo qabaqaabada waxa arintaas masjidka aad ugu walaacsan bulshada Soomaaliyeed oo runtii aan xog badan ka haysan gabdhaha ayaa ka mid ah waxa kale oo kulankaas ugu casuumay Sheekh Suldaan oo asaga naftirkiisa ka bixiyay aragtidiisa sida hore u sheegnay sheekh wuxuu diyaar u yahay mar walba in bulshada Soomaaliyeed hadday intuu ka casuumato isbuuca dambe uu imaan karo oo aragtidiisa uu dhiiban karo oo ka hadli karo sida wax asaga u arko laakiin walaalaha dhinaca kale ma aqaan waxay iyagu ay la tahay laguma arko marxadaha oo kale ummadda lama hadlaan sidaan ku aragnay laga tago video kooban oo la soo dhigo Facebook iyo YouTube waxaa kaloo lagu soo casuumay Sheekh Suldaan oo su'aalo laga weydiiyay runtii meesha waxa lagu weydiiyay sheekha su'aalo xataa maamul iyo mid asaga qosaysa mid khaas ah mid masaajid qosaysa waxaan jeclaan lahayn kelmadda inaan siino bal gabdhaha nolol markaas la jooga laftirkooda hadday wax ku dari karaan hal iyo labo oo soo dhaweynaa insha Allah عشور وين ولا شيء سعاد سورو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمانتي واحد بالله هاي سور هذا ولا شيء بنا هاي وحنا هاي بيوينكي كم إذا هذاتي قبا نصيبه يا شيء إنك سوق قطان أساس كمسجد قبا أبا مركز قبا. مدبرنا وانكسر دحتري صراحة وحياة فربضن ويعني في عنو لسميه ويجرتي لكن هذا نسيد الكلام كله إذا وحياة فربضن وبني آدم ماذا كبحسن حقوق دي إنك سومالي ماذا إنك ده حيسي أيان ماشي كواي أنا قصد حسن كهربان كتجي أنا إسكا كسو بحي يعني ضد بدن وحي مود يعني إن أنا قال لي قصو ساري لكن أنا كبحي waxaan uga soo baxay waxyaalo fara badan oo arkay inaanay fiicnayn walaaltinimada meesha la sheeganayo islaamnimada la sheeganayo aan ahayn islaamnimo yani waxaan niyadayda had iyo goor aan rajaynaya inay tahay haddana wali waxaan leeyahay wali rajo way jirtaa laakiin waxaan ka xumahay in wali in dadkii aan ka sugaynay inay walaaltinimada ilaaliyaan oo dib iskugu soo noqdaan oy Soomaalinimada maanta Netherlands joogtay iyo ummadda Soomaaliyeed wax loo tari lahaa amba dadka wax loo qaban lahaa inay ka sii darayso ma ahaane inaan la soo dhaweynayn maanta yani waxaan ka xumahay in maanta inako 110 malaha dhalinyaro oo Qur'aan xaafid Qur'aana amba dad diin yaqaana inay maanta banaanka ka joogaan masjidka waa arin aad iyo aad foolxum ummadda Soomaaliyeed yani wax wasmad caarko amu tahay marka waxaan rajaynayaa kolley on baaqu dirayaa Soomaali meel kasta ay joogaan Netherlands rag iyo dumarba inay ahaadaan sidii Sheekh Suldaan loo soo saaray si bani aadnimada ka baxsan ay tahay aan dad walaalo ah oo masjid maanta dad diin sheeganaya ay yihiin haddana sidii loo soo saaray si bani aadnimada ka baxsan ay ahayd midna qofna aan qof xitaa jaarkiisa aanu la jeclayn waxa soo kale waxa kaaga sii daran yani haddana sida lagu sii socda iyo la heerka yani beenta la sheegayo waxyaalaha la sii gudbinaya yani heerka la soo gaarsiyo ummadii inay isnacdo
banaadnimadii naga tagto walaaltinimadii naga tagto qof kastaaba qof uu tuhmo wallahi alcadiim waxaan odhan karaa un waa shaydaan inagu shaqaystay baa jira laakiin shaydaanku marmar waxaa jira shaydaan marmarna shaydaan il-ins baa jira moogtahay marka aad iyo aad baan uga xumahay waxaanan halkaa baaq uga dirayaa kolley cajaladaasi waa dhagaysanaysaa waana daawanaysaa sheekh ibraahim iyo guuleed waxaan leeyahay ummadda intaasi in ka filan ood ku ciyaarteen intaasaa idinku filan waxaana rajaynayaa khamiista ka hor inaad awood haddaad leedihiin oo karti iyo awood iyo bani-aadnimo iyo islaamnimo idinku jirto khamiista ka hor intaanay maxkamaddu istaagin haddii ilaahay aad ka cabsanaysaan inaad ummadda xaqooga usoo celisaan wajazaakum allahu khayran aad baad mahadsantiin waxaan kaloo halkii visitka aan kula kulannay saa hore u sheegnay shire maxamed siyaad oo ah dabcan odayaasha soomaaliyeed ee magaalada amsterdam hareerada degan qof muctarabka ah shire sidaad la socotaan wuxuu qaatay initiative aragti ah bal inuu masaajidka arrintiisii asagu ku biiro oo dhexdhexaad ka noqdo uu galo oo walaaluhu hadday dhegaysan karaan labada dhinacba waxay ka yidhaahdo arrintaas shire wuxuu u tegay sheekha wuxuu u yimid walaalaha masaajidka jooga wuxuu u yimid guddiga amsterdam wuxuu isku dayay guddiga tilbruq inuu la xiriiro oo u tegay sidaan jecel lahay aadan iyo sheekdoon wuxuu kaloo shire xiriir la sameeyey sheekh shibli bal arrintaas ugu xalliyo waxyaabaha dabcan labada dhinac ay ku qof walba oo shuruudaha uu aaminsan yahay soo bandhigay sheekhu sida hore u sheegnay shuruudihiisu waa iska saalan yihiin dhib kasta oo loo geystay bahdalaad kasta oo ku dhacday booliis kasta oo loogu yeeray mushaarkii oo laga goostay ama dadka Soomaaliyeed ku baraarugsan sheekha in maanta mushaar uusan masaajid ka qaadan taasoo runtii aan fahmi waayey 10 euro anaga aan dhiibaynay in sheekh Suldaan si uu soo dabco lagu bahdilo oo laga goosto oo loola dhaqmo sida yani inay iyagu meesha ka yihiin baas oo ay madax ka yihiin waxyaabaha laga yaabay ka mid tahay ninka la yiraahdo shir wuxuu isku dayay walaalkeen inuu bal arrintaas galo sheekhu wuxuu weydiiyey shuruudaha sabartaa saddexda ah oo ay ka mid tahay shaqadeydii inaan ku noqdo bal inaan farboodka la shaaray oo la isaaray laga qaado waxa la yaabay ka mid tahay forsitter ku jira kafikaaga oo farbood la saaray oo aan ka hadli doono haddii ilaahay baqaybta dambe ee warbixinteenna وصول إن شاء الله. وحكروا الشيء الصوب اللي عرفتيه كل زورته وحرادنا. ما دام أولاد الشيخ شبلي فإن علماء كانوا الراديو وعرفتاس وحلاقي هذا الشيخ سودان ساعة وشيء مساجد كعلماء إنه هرب صوق شيء أو واحد عصبة سنين وحريق لسنا علماء الصومالي هو وينه أو الشيخ محمد إدريس تصالح وكمل يعني عرفتها أنا يسوع حلوين هذا يكون رماتي رجوعها إن يوم أي ربنا إن يكون حليان محكمة تاس أول أي سورتكار إن علماء نقول حليان حالكم مش كسهلين يعني سدح هذا سردين أو وطن المساجد كسور نقول في بوت كلا قاعدوا الشقادي ببيت عاي كده يجين أي سور عليان فريه سينا يسوع عليان ما لها أولى هي تخان سيدا أي كبيت بقية أي الشقادي سعالي هذا أي كحيرات هذا رتي عرفتها سوى سعودي شيء فالشركة سلا أكتب بملأ وكباهي إن حلقة جاريس عرفتها سوى أي فوقاتي وأي محكمة هذا يكون روتي وحياة صار معنا بنشوف صار عن قوضة سلا ماشى وكذا يسني وحقوقها الشيخ ماشى بسوق اليوم والإسلام كذا إلا السبب إن كنت جنب بلاريو ولو قدر ابنها هذا أو صدق الأهل لقبضيو إن حيروسات للصناعية بدل المساعد من الحيروسات وحولها إن كنت السراء أما راتها توصل لقدره ما دام المامور كانت إلى أو كقوم بعمي قانون ADB أو صدق قفا أو على هاي كنت كنترولا أو أودها أنا ولا السمن أو سيدا حتى على ومركا على غير بينو بدون كسره كنت كسر هاي الهرم وحقيقة الماشي كنت ما دام المساعد لقى الله يو قصب هاي كنت علماء أو دين تهي أرمية المراقبة إلا هرب أو لغو صدر مساجدك وحكروا إيضا الماشي كجرتي أو لحظة القدر كمدها سلام الشيخني وحال لحظة القدر كمدها يقول لك الله بناري ولحظة القدر ويقويشي أو الإسلام كان هذا
وأنتن عن شيء أو لجوا الله يبيش ولا جوا الله إلا فلين runtii lama fulin waxyaabaha day aan ka hadalnay oo qaladaad keenay oo warqadii qaladka loo qoray oo qodobadan aan lagu qorin oo runtii lagu qoray waxyaabo ka soo horjeeda oo sheekha loo yimid oo sheekhu dhowr jeer ka hadlay oo markii dambe keentay inuu sheekhu kala noqdo guddigii Tilburg kalsoonida oo ay meeshaas ku kala dhamaadeen waa waxyaabihii ay u soo weysay lixda qodob sababtii lixda qodob waa lix qodob oo muhiim u ah masaajidka iyo jiritaankiisa mana u danaynayso kooxda hadda masaajid ku hartay iyo sheekha waxay u danaynaysaa masaajidka iyo jiritaankiisa oo ay runtii ummadda Soomaaliyeed ka ilaalin lahayd maanta waxyaabaha ku dhacnay oo ay ka mid tahay inaan guddi sare jirin oo kala saari kara waxyaabaha oo kala hadda guddi masaajidku ma laha inaan xeer hoosaad jirin oo loo qorin xataa qaabkii masaajidka shaqadiisa u socotay guddiga oo 3 qof ka kooban oo naftiisa uu yar yahay marka hore 4 qof ka koobnaa oo isku wada awood runtii markii warqadda uu Sheekh Suldaan uu ogolaaday oo xataa warqadii tarjuman oo nidaamsan oo diyaarsan oo la tagay oo yiri sidaana wuxuu arkaa sidaana ku heshiinay waa sheekh warqadiisii waa la diiday waxaa la qortay warqad kale oo liddi ku ah oo aan arrintiiba shaqo ku lahayn oo inteeda badan aan ka arkaynay in ay xiriir la leedahay isfaarkii sheekhu uu sameeyay kaafikaagii oo asagu dib isu qabtay taasoo runtii ka soo horjeeda sida hadda aan maqlaynay qodobadii lagu heshiiyey oo lixda ahaa markii ay ka furso weysay oo dhowr jeer la isku celceliyay sheekhu waa tuu iska diiday oo hore abad Soomaali ku soo bandhignay oo soo dacwooday oo aan ka wada hadalnay arrintaas waxay ku dhamaatay meesha aweedeen marka ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa arrin isku baraarugto dhowr jeer waxaa loo sheegay guddiga Tilburg ay u sheegay sheekhu inuu arrinta diidan yahay oo asagu wax diiday sheekhu waxa uu diidin waxaa meeshan ku jirta oo aan haynaa oo aan ka xishoonay inaan soo bandhigno guddiga Tilburg oo garanaya warqadahaas inay qaldan yihiin oo sida hadda aan u dhageysano oo kale oo qoraan warqadaas inay qoraan ma ahayn in dhalinyartu warqadaas kula yimaadaan ma ahayn warqadda waa inaan anagu qorno oo ku keenno haddii marka labada dhinac oo haystaa ay warqadaha midba mid kale ugu qori karo طبعا لو قفل كيسيس تسد عادي wax saxan qoray qofka ka soo horjeedo waxa qasaba cid guddiga ah inay warqadaha iyadoo soo diyaariso oo ay labada dhinac wada timaado ay ka saxiixdo laakiin markii uu yiraahdo warqadii soo qor hebel waxay misdaaqiyadii ama credibility ama aaminaadii guddiga ay ku tahay cad sheekuna xaq u leeyahay markuu ka shakiyay inuu iska diido oo yiraahdo warqadaas ma saxiixa waan markii dambe wixii dhacay نحملنا جودي رتب روحاني للجوجان أو كنتي أريد أسمع جلالها نفسي كل هذي وحكي كران وصول وين نوالها عشان أكتر تهيال الدعوة مسجد كمسجد شخصيات معاك أنت الدعوة للشيعي محاسبة الدعوة لنفس كذا وعلى مقالين جناح للشيعي مدادكم مساجد ك العقوة قاعدنا يكونتكم يكون شيعي اليوم oo sida meesha ay ka sheegeen boqolkun oo masaajid ku taal halkeeda taas xataa weyn anoo gari boqol taale iyo lacagta meesha u taal halkeeda marka taas halkeeda qof uga jiro taas rabaa noqdina oo sheegno dacwada wadaadka masaajid ka geeyay sida sheegayaan si saxan ma ahan wadaadku wuxuu ka dacwooday waxyaabo badan oo ay ka mid tahay footballkii laga saaray masaajidka soo ma gari kartid shaqadii laga joojiyay وطبعا هو تصح الله مري وحاصل لنا أنه مع دينه لكن وحلوه بقى ربها محكمة ده نظام كسعود إلى يوم كسران أنا وضد كلام صارينه لكن وحشيء إنه كلي بدي أهان سيدا أن حكته كوهينه يسيدا أن كواركين بدي أهان هذا وحكروا شيء كده عودي ومحكمة دوجي اللي هي كتبتي وحياة بدل ويني ولا يقوم بين أمورتي أصلاً طبعاً نجح ربعي البلادون كاسو صحيح وصحناين وحنا نلوي معه بحيابها وشيء كنت أقوله حكمت وجيه كمتها وحكروا وراها بقى هلا يكون جتي مساجد كإلو دي بدور قالوا رتي أريد أسوح صحن معها لكن سيد النظام هو يهبه سيد عادي هدي مامو كبيس الجوع يعني وقت عضو لو بنغان إن ماشي أو بنايو وحيمان يصلح اللي هذا فراق دستوري ما دعيسو ماشي إسكان نقطة نظام العام محكمة وإن قاعدة لبا مدون إن إياه قاعدة قرآن هدي أنا لهيلين قدي كملجاء أو بدلا
in iyadu ay cid meeshii maamusho keento sida nidaamku qabo marka in ummadda la siiyo information qabyo ah oo ah maxkamadda masaajidka waxaa loo dhiibi doonaa bifid footer oo aan loo sheegin haddii la waayo guddi ku-meel gaar ah bifid footer loo dhiibi doonaa marka hore guddiga lama sheegayo waxaa laga bilaabay si dadka loola hadlay looshikooda masaajidkii gaala loo dhiibi doonaa sida saxadna ma aha laakiin nidaamka wuxuu ogol yahay haddiiba loo xakumo ama laga xakumo kulligood ma naqaan annaga cid loo xukumayo in guddi ku-meel gaar ah loo dhiibo ama haddii la waayo in la keeno bifid footer waxaan rajeynaa arrintaas inaan ummaddu ay ka diyaar garowdo nafsirkeeda oo la soconno maadaama waqtigii uu dhow yahay ganaaxa sheekhu u sheegay in ganaax nimankaas yani lacag laga qaadanayo lacag wadaadku masaajidka codsi uu leeyahay wadaadku wuxuu ku sheegay waxyaabaha hataa soo sheegayna waxaa ka mid ahayd meeshii laga wacay in meeshii loo diiday shaqadiisii uusan tegi karin waxaan hore u sheegnay oo dhowr jeer aan ka soo hadalnay oo dhowr taariikheen aan soo joognay 29 markii aan ka dhammaanay guddigii tilbrook 19 oo processkii bisfaarkan uu socday 28 kaamurka kafikaga wuxuu soo gaaray go-aan oo sheekh suldaan uu ku guuleystay isfaarkii sida aan filaynay annaga ummad soomaaliyeed dhowr jeerna aan u galnay inaan bal ergan iyo qof geli kara iyo raadino oo sheekha lagu soo celiyo qodobadii haddaa aan dhegaysanaynin oo xagkuu ka ahaa sheekha meesha lagu soo celiyo weliba ma ahan 6 nin meesha 6 nin 4 meesha aad kula qoran tihiin oo ku jirta oo macnaheedu ay tahay dadka ay qusaynayso maamul ahaan ee dadka kale oo dabcan saaxiibada la ah waxba kama qusaynayaan markii sheekhu uu soo noqday 28 oo kafeekaay uu ku guuleystay 28 September waxaan rajaynaynay inay hawshu inay dhamaatay oo xataa ay qodob ka mid ah 6 qodob hadda aan sheegno oo naga dhamaado oo 6 qodob waxa ku jirtay sheekh hadii la soo celiyo inta kale ay balaarin guddi lagu daro xeeroosaad la sameeyo taas inay xoogaa yar soo dhawaataan noo muuqanaysa laakiin ma dhicin walaaluhu waxay qaateen isla markiiba go-aan iyaga dabcan go-aan laga yaabiyey oo ay ahayd 5tii bishii Oktoobar waa dhowr maalin kadib in raggii meeshii wada joogay oo marka hore 3 aayeen 5toodii ay kaamarka isku qoraan waxyaabaa laga yaabiyey sheekhu meesha forsitarka ah oo ku qoran in 5 qof ay hal mar isku soo qorto kafekaaga waa process ka furan anaga shaqo ku malihin laakiin waa nidaam badan oo sidaa u arkayno sharciga waxaa ku xigtay 8 in la soo diiday oo kafekaaga la soo diiday oo lagu yiri nidaamkan waa nidaam aan waafaqsanayn sharciga meeshaas kuma hakan walaaluhu waxay sii qaateen sheekh suldaan wato masaajidka aaday islaan ogeyn oo khudbadii aan soo dhaweynay oo 10kii bishii masaajidka u tagay 8dii bishii oo masaajidka bishii 10kii bishii 8dii bishii 10aad oo masaajidka tagay maalin jimcaha ummaddu ay marxabaysay oo islaan sheekhu waa soo noqday waxaa ku xigtay isbuucii ku xigay wadaadku masaajidka haddana u noqdo oo albaabadiisii laga xirtay runtii waxyaabaha laga yaabi ka mid tahay oo aan islahayn haddiiba ay soo dhawaatay xalkii oo marka hore aanu arkaynay caqabadda inuu sheekhu meesha uu ku soo noqdo in inta kale la furi karin laakiin ma dhicin furayaashii markii wadaadka laga bedeshay sida caadiga ah qofka laba nidaam uu furan maadaama uu forsitar yahay inuu asna qaato qaabkay qaateen oo asna baxo u diraqta bixiyo furayaasha furo furayaashii ka bedelo sida caadiga ah laakiin arrintaas way soconay mar walba oo iyaguna sidii wadi doonaan si arrintaas looga baaqsado guddigu waa ogyahay sheekh suldaan waxaan kula talinay inuu iska dahay maadaama aysan waxba soo saa'idinaynin oo ay meeshii dagaal iyo sheekhii iyo raggii la kala celinayo ilaan qofka albaabka kaa xigtay waa waxa ugu dambeeya sheekhu arrintaas waa qaatay soo noqoshadii dambe uu soo noqday waxay keentay in la yidhaahdo shaqadiina waa kaa joojinay meeshan waxaan kaa saarnay furbood keliya looguma simin furbood in laga saaray waxaa loo adeegsaday xeer iyagu magac dareen 138 oo house creative broke yidhaahdeen oo ah yani xeer qof meel uusan waxba ku lahayn si dirqiga ku galay waxaan isweydiinay sheekhu ma meesha xubinuu ka yahay oo wuxuu ku jiraa guddiga mise waa qof meesha dirqi iskaga geli kara oo yani dadka kale xataa haddii aan ka soo qaado yani duug meel jabsaday sida xeerka meesha ku qoran oo ku galay ama diiday inuu ka baxo waa idiin saari karnaa shaashada sharcigaas oo intaan ku haynaa house creative broke sida uu sharcigu ka qabo xeerka waddanka
ma aha qof forsitter ah oo dastuurka ku jira in lagula dhaqmi karo weliba xilligaas wuxuu ahaa sheekhu active ma ahan xataa xilliga ay socotay khilaafka oo meesha ay saarneed khilaafaa ka jira iyo arrintaas ma jirto taas waxay dhalisay sheekh suldaan marka waxaasoo dhan la kulmaya ila waxaasoo dhan waa sharci jabin dadka Soomaaliya waa inuu ogaadaan waxaasoo dhan waa nidaam sharciga aan waafaqsanayn sheekh wuxuu qaatay wixii ka dambeeyay inuu booliiska duubo momentigaas sheekha waxaa laga joojiyey mushaarkiin arrinta mushaarka waxaan u malaynaa dad badan oo 2005 ilaa 2006 jaaliyaddii Sonfaw ka tirsanaa inay joogaan ayaan u malaynaa gabdho badan halkaa fadhiya rag badan ay muuqda waxaa ka mid ahaa Muuse Cabdi Cali ma jooga waa kana qaadirkan muddo waxaa jira waagaas 2005 2006 waa ogtihiin jaaliyadda Sonfaw meesha galaale oo lagu inay ahayd masaajid ama meel lagu tukado sheekuna meesha xafiis ku ahaa intaas waa isla soconaa marayna dadka joogi jir gabdhaha tawgi absolutely wadaadka maadaama shanta maalmood uu dadka dujinaayo oo diinta baraayo runta xubbiga waxa la yiri waa in la siiyaa mushaar ilaa asaga caruur u leeyahay waxaa dhacday marka mushaarkii xaggee laga keenay dadka Soomaalidu su'aad kulli farxiyo waa wada ogtihiin walaalay sandaab gabdho badan oo runtii sharaf la meesha fadhiyo ogahay inay ilaahay bilowgii ay ka warqabeen arrinta jaaliyadda iyo masaajidka suuqii liisa la qoray ilaa 100 qof gaaraya ilaa maanta waa la hayaa liiskaas dadkiina waa ku qoran yihiin sharafaad leedahay wadaadtii waxaa lagu qoray qof walba inuu bixiyo 25 euro ayaa lagu qoray ujeedada loo sameeyay waxa lacagtaas in la soo aruuriyo oo sheekha anagu aan baxsano mushaarkiisa sida uu diinta loo baro dadka u dujiyo xarunta ugu dhig lacagtaas waa la soo aruurina dabadeetana jaaliyadda loo keenaya ama content lagu soo aruuri jiray ama bangiga lagu bixi jiray sida ogtiin lacagaha markii content la soo aruuriyo waa amaano waa la tirina dhowr qof fariisanayso xisaabiyaa jira intaas la soo aruuriyay waa la saxiixa bangiga la geeyay iyo wixii bangiga ku soo dhacay waa la xisaabina waxa la leeyahay bishaan lacag intaas timid wadaadka mushaarkiisa sanadkii waa la xisaabiyay intuu noqonayo bal u fiiri sidaas lagu sii jiray lacagtaas ma Sonfaw bixi jirtay ma soo waxa bixi jiray dadka Soomaaliyeed ee Sonfaw ka tirsan ama aan ka tirsan ayaa bixi jiray lacagtaas Sonfaw waxay ahayd oo kaliya in loo soo mariyo Soomaali anagu marka su'aasha aan anigu aad u la yaabo waxay ahayd arinta mushaarkan u socda war Sheekh Suldaan mushaarka la siiyo walaalayaal sooma aha tobanka laga soo aruuriyo dadka jecel wanaaga iyo sadaqada miyaysan ahayn lacagaha masaajidka laga aruuriyo ma iyaga ama dadkaasa jeebkooda ka bixiyay istikhtiqo waa loo soo marsiyaa Sooma sidee looga joojin karaa aqligu wuxuu sheegay hadii la isdagaarsan yahay xataa ilaa xadkaas yani waxyaabaha la yaabay ka mid tahay ma fiicnaya wadaadka hadii la isdagaarsan yahay xataa wadankan waa la isqabtaa maamulana la isqabtaa mushaarkiisa laakiin doorkan adiga fiiri waa lagu soo marsiyaa jeebkaada kama bixin mujtamaca uu khidmeeyay ayaa bixiyay ma meel kale laga keenay si mushaarkiisa hatta dagaalku ha dhamaado konfliktiga ha lagu kala guuleysto ama lagu guuleyso way laakiin dagaal noocaas ah ninka wadaadka oo miskiinka in la yiraahdo mushaarkiina waa laga joojiyay oo keeni doonto waxyaabaha aan la yaabnay ka mid tahay yaa adiga authority ku sii magacta jeebkaada ka bixisay بعد وسؤال اللي سويت دتك Soomaalidu yani waxyaaba anaga naga yaabiyay ka mid tahay runtii waa ma tsinti حق الله الله يشوف واحد مشارك ما يشتغل مشقة تيجرو وقف وينه وقف شيخة وقف حالة قارة يكون عظيم وعوبة هي كرم استاج ربعة وصومالي معه وأهل معه وننقضي معه الشيخ وليبا
waxyaalaha cadaadarada waxaa ka mid ah inuu masaajidka imaamka ahaa laba urur oo meesha deganna uu guddoomiye ka yahay xilligan aan wada hadlayna wuxuu ka yahay guddoomiye waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah haddii xataa mid ka mid ah uu ka siiyo shaqadii furbood ka siiyo oo shaqadiina ka joojiyo kan kale xataa ma tegi karo mas-uuliyaddeedina waa leeyahay waayo sheekhu wuxuu ka yahay guddoomiye ururka aaska kan kale la guddoomiye ka yahay labadaba ilaa hadda uu ka qoran yahay ilaa hadda aan wada hadlayno laakiin maadaama aan ka xishoonnay meesha in khilaaf ka dhaco oo dhowr jeerna ay ka dhacday in ummaddii ay isku qabato oo dhowr jimca xataa khallaasiya uu soo dhawaado oo bulshadu ay kacsaneed sheekhu wuxuu ka joogay gurigiisa waxaa kaloo sheekhu uu sheegay in dad ka mid ah ay meesha ay naftirkoodii shaqaale ka yihiin oo ay ka shaqeeyaan ama ay ka soo shaqeeyeen waxaan ka hadlaynaa lacagihii ummadda waxyaabaha loo adeegsada naftirkeeda lacagtaas ummadda iska lahayd oo ammaanada ah oo meesha taal naftirkeedii laguma siman intaas waxyaaba badan loo adeegsada horteed khilaafkii dhacay awgiis khilaaf markuu yimid kadib sheekha meesha laga saaray keliya ma aha ee lacagtii sida lagu maqaalo ah oo lagu gaadhay waxaa loo isticmaalay awkaad waxaa loo isticmaalay akoont oo akoont firkalaal lagu samaystay waa lacag ummaddu ay bixiso oo annaga aan bixinno oo tobanka ah oo tobankii sano lasoo dhaafay aan xisaabxeed laga siin oo hadda lagu samaysanaayo yani xisaabxeed oo aan shaqaynin umad Soomaaliya taas waa ogaatay dhismihii masaajidka oo la sheegay Wisdom Bank Harbour Quartier oo dad badan aysan ogeyn oo runtii laga yaabo inuu qayb ka mid ah noqon karo khilaafka iyo waxyaabaha la isku haysto ma hubno anagu waxba ma hubno laakiin waxyaabaha labada dhinacba aan isleenahay waa la isku qaban karaa inay qayb ka tahay waa saari karnaa derbiga dilaheed nog intensiever dan de rest van het Hamerkwartier, eigenlijk in zijn huidige vorm, ongelooflijk goed functioneert en een enorme hoeveelheid bedrijven huisvest op een heel adequate manier, tot ieders tevredenheid. En laat het gewoon voorlopig, zeker 10 jaar, in stand zoals het is. Een ander argument is dat Albemarle als fabriek natuurlijk geluid produceert. veldgeen horta sidaan aan rabaa inay noqoto sida Wisdom Bank anagu ma dhahayna saan noqonay laakiin sida qorshaha ku jirta waxaa ku qoran meeshaas in laga rabo in laga dhiso tooran oo 45 mitir ah dabaq 45 mitir ah waa kan meeshaas waa meesha masaajidka ku aadan tooran 45 mitir meesha waa quba meeshaasna andro tooran sida qorshaha Ameerika Amsterdam ku jirta su'aasha taageerada markuu waxay tahay haddiiba sidaas ay wuxuu jiraan horta waxaan jeclaan lahaa walaalaha masaajidka joogaa waxaan annaga aan sheegaynin in iyagu noo sheegaan oo ay ummadda u sheegaan oo ay la wadaagaan ma aha in annagu keenno waa in iyagu bulshada ay la wadaagaan oo ay sharaxaan waa ka soconaynaa waa iska warbixin dheer oo dabcan laga yaabo in saacado badan laga lumiso maxkamadda wadaadka ku horreeyey oo masaajidka maxkamad geeyey arrintaas waxba kama jirto sidaan ognahay 28kii September markuu wadaadku meesha ku soo noqday oo iyagu waxay qaateen isla markiiba laba go'aan oo mid uu yahay inay meesha ku soo qoreen saxaro sheegay midka kalena uu yahay inay dacwo ka yihiin ay ka qaadanayaan group ku soo noqoshadii wadaadka la soo celiyay 28kii isla 18 October iyagu waxay u howlgaleen inay dacwadaas ay gudbistaan meesha dacwada wadaadku ay kadib dhacday oo xilligaas ka damba oo wadaadku uu ku dacwoonay waxa ay soo sheegnaan oo dhibaatada loo geystay iyo duruufaha wadaadku marnaba kuma dacwoonayeen wax la xiriira ama iyaga laga saaro ama yaa laga saarin laakiin haddii ay timaado oo duruufta ay keento maxkamadda iyada ay xukunto waa wax kale soo wuxuu ku dacwoonay masaajid ku soo noqdo shaqadiisii wato furayaashiisii la siiyo furboodka laga qaado mushaarkii babaantu uga joojiyeen oo 10 euro anaga aan bixinayna aan loo daayo iyagu waxay ku dacwoonayaan maadaama sheekhu 28kii maxkamaddii ugu guuleystay 15kii dhacday hoositiki waa maxkamad aan sharci ahayn horta maxkamaddu dadku ha bartaan tan kaafikaaga iyo dadkeeda waxay leedahay maxkamad marka hore waa administration waa iska saarista iyo soo gelista marka hawshu ay kulaato waxay leedahay qayb yuridis ah oo dadka kala xukunta sidii dhacdaba 14kii bishii 9aad oo labadaba la dhageystay dhageysigaas wixii lagu sareeyay waxa soo baxday inuu sheekhu saxiix
marka la soo celiyo hadayba aan sheegnay oo aan rajo lahayn ah in sheekhu uu soo noqdo hawsha ay dhamaatay nimankaa markiiba waxay qaateen group inay aadaan oo ay ka dacwadaan iyo inay isku soo qoraan oo labadaba ah runtii waxyaabaha sii cuslaynaya kiiska iyo xal laga gaaro masaajidka tii waxay keentay inay meelihii haddana la taagan yihiin wadaadkii isagaa maxkamad masaajidka geeyey runtii iyagaa ku horreeyey oo sidaba hadda aan sheegnay arrintaas maxkamadda ummaddu saas waqti waa inay u ogaato oo maxkamada masaajidka nagala geeyada inay tahay wax loogu horreeyey wadaadka oo ilaa ay haddana ay taagan tahay oo bisfaarkii ay ka qoreen ilaa ay hadda ay daba socoto wadaadka oo haddana ay soo socota xataa qayb ka noqon karto waxyaabaha laga yaabo in looga hadlo anaga waxaan qiimadeyna laakiin waxyaabaha laga yaabo in looga hadlo arrintaas maxkamadda annagoo daba soconna runtii maxkamadda waxyaabo badan oo aan inta ka sheegi karin oo aada qaabdaran la xiriira oo aan ka xishoonayn inaan ka hadalno oo xataa anshaxa ku xun in wadaadka maxkamadda la geeyo ama laga dacweeyo ama waa jooga la yidhaahdo waxay qaadatay in la isticmaalo qof kasta oo la isticmaali karo يعني waxaan awal u haysanay maamul iskhilaafsan oo dhowr qof ka kooban oo meesha joogo laakiin hadda waxaan noo caddaatay in arrintaas ka fog tahay oo xataa ay joogto in laga yaabo dhalinyar yaryar la isticmaalay oo aan ka xishoonayn meesha ka sheegno waxyaabaha laga yaabay ka mid tahay waxaa laga yaabaa gabdhaha qaarkood xataa inay joogaan oo ay rabaan arrimahaas wax ka dhahaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراء مشاكل كنت كولا waxaan u jeedinayaa koo waxaan leeyahay Sheekh Sultaan wuxuu dejiyo iyo khayr uu rabo ma hayso qof uu ku dhahay saan sameey male walaalahay Sheekh Ibrahim iyo walaalahay kale waxaan ka dalbanayaa Ilaahay inay ka baqaan barita adduunka waa laga tagay ilma leenahay ilmaheena mashaakil sax u dhaliyaan inaan meesha ugu dhaqmaa إلهي كبقاء وحن كتلبنا محكمة الكوه إن الهشيس وصع دوادان وإلهي درادي سأي مشاكل إسكت آفان عدوها عدو كانوا على الاتجاه بريتوا تجينا المهيا نادوتي في النضع ودافعنا مهيا مش كتلنا لكن حالا الشيخ سلطان وحود دكيو وله تقوا الله مهيا وولي جسنا قدر بالمرة وحو أنا كإرادة لن أسمينا وحكستا ظلمي ما فينا ظلمي هالسكيلاري ولا لو دوني على سكيلاري إله اللي جنبكم أدون كريت ولا جنتيا وحقول كذينا ولا له جاس إلهي نكبر المال ليدين لدينا وقع الصورة برجع نقعد منينا لأننا عن كتيرنا نسمع الدونا فتنة ذي مش كألنا أنت سامع إن شاء الله بدها ولا بايا hooyooyin fara badan oo fadlan yani aan doonayn inay kamarada soo hor istaagaan laakiin guryaha loogu tegay oo waraaqaha laga dhaadhacsiiyey in waraaqda haddaanad saxiixin amba 5 sano xariga haddaad saxiixdid oo Sheekh Sultaan yani inuu waxyaalo qalada uu ka dhaadhac dadkii uu yidhi saxiixa ayaa lagu yidhi dadka marka waraaqahaasina waraaqo qalada weeyaan taasaan doonayaa inaad ii sheego hooyooyinka cabsi baa la geliyey wallaahi hooyooyinka cabsi baa la geliyey guryaha loogu tegay dumar baa loo dirtay qof kastaba rag iyo dumarba waxaa loo dirtay tolkiisii waxa la yiri unsur akhaaka zaliman aw madluman waxa Soomaalida baabiye waxa weeyaan walaalka marka doonaysid inaad garab istaagtid waxaad u garab istaagaysaa markuu xaq ku taagan yahay laakiin markuu shar ku taagan yahay inaad garab istaagtid maaha inaad ka celisid weeyaan marka maanta loo isticmaalay waxa weeyaan walaalada masjidka ku hadhay 20 ciyaal oo yar bay isticmaalayaan oo maskaxdii abuse kaga sameeyeen marka waxaan ka xumahay in hooyooyinkii meesha joogay ee masjidka soo dhisay ee intaas oo dhan la soo halgamayay in si xun loola dhaqmo oo wallahi alcadiim bani aadnimada ka baxsan marka haddana waxaan leeyahay masjidka Soomaali baa leh ummad baa leh qabiil kasta soo dhistay yar iyo weyn ma ogtahay laakiin in hooyooyinkii aabayaashii soo dhisay ina banaanka la joojiyo oo 20 ciyaal oo yar meesha lagu soo keeno waxa la yiri qofkii si weynaa qofka ixtiraami waayo ka yarna ixtiraami maayo kaasina bari toonaysa ku banaanka u tuuri walaalayaal waxa waaye hamalaha meeshan ku inta salaawada kan diganahay masaajid Soomaaliyeed ku meeyaan oo arko masaajidka waxay anu arko beecurtiga aan kaas arabi haddana waxaan u jeedaa walaalaha ragga hay oo hay inay ishaystaan oo dagaal la baxshay aan arkay oo deeq arkay walaalayaal sida hadda lagu socdo wax la soo dhaafo waa la soo dhaafo maxaano dar xagaa u socona xagaasa ka socona maalintii la arko inaan u ahaano
dad tabooni ma ahan xaqna ma ahan walaalayaal harta shaqaatiin gabdhaatiin hooyooyinaatiin dadka madhalaatiin maxaa mustaqbal oon haysanaa masaajidkanagi inuu xilmamiyaa aan ku soconaa mase inaan xaalisano oon horumarkanaga ku fikirnay carruurtanada say u tarbiyeynahay maalin arkana qabiil iyo hebel wuxuu yiri iyo hebla waxay yiri aan u taagnaano iyo qof laba qofooda ma ahan maanta sheekh suldaan waa la bixiyey waa u wada jeedayna berrina mid kuwa intanada kala la bixina masjidkana qof qol nin oo degan yahay oo iska leeyahay ma ahan wuxuu ka dhexeeyaa intanada soomaali xoolahana muslimka dhan bay ka dhexeeyaan meeshaan ku jira walaalayaal maxaa loo leeyay هذا محل محرق قراءة نقول إنه خرجنا ولا لبض لو تمرأيني والله بهرت مركي أبوه رسالة عاية الدراسة اللي سميه ولا يهنددي والبحر يا باليني تطبق بالبوق راح يا باليني عبور هذا أيا أخلص وبيتك دارت صحيحين ورقد ديوان آخرية صحيحين waxaa ku qornaa inaan soo kala ka sameynayay laakiin inuu shaadku iqasbay kumay qornay iminkana dembi aan galay ayaan leeyahay halaga hadlo waxyaabaha qaladka ah oo aan sharci ahaan saxnayn waxaa ka mid ah in warqad lagu keeno oo aan lagu tusinin oo aadan ogeyn oo aadan fahmin in hawdag waxa ku qoran aadan fahmin lagu yiraahdo warqadan waxay badbaado u tahay masjidka saxiix qofku warqad markuu iska saxiixo waxuusan hubin haddii asaga uu dhihi karaa waxaan ma aqaano wax ku yaal waa lagu qalday waayo qofku waxaa laga yaabaa luqad la-aan inay jirto faham xumo inay jirto oo loo hoos geliyo waxyaabo badan oo luqad ahaan qalad ah waxaa dhici karta qofka duruufihiisa khaaska in looga faa'iidaysto waxaa guddiga soo gaartay oo annaga aan shaqalayn loo sheegay oo dabcan maxaa geejin karno in ay ku jiraan waxyaabaha mamnuuca dabcan ku ah ethicska ama anshaxa mamnuuca ku ah in dad famili ah ama qoys ah ay si toosa iyo si dadbanba ay weerar yacni ay ka wada socdaan hal dhinac oo ay kulli wada firkalaarin qorayaan ay ku leeyihin waxaan lid ku nahay dhinaca kale runtii arrintaas sharcigan kuma jirto saxna ma aha marka dastuurku isqabsado iyagu waa isdacweyn karaan laakiin qof dastuurka xiriir la leh xiriir saaxiibtinimo xiriir ahalnimo xiriir shaqo ama ay duruuf u geyso oo laga yaabo xataa qofku inuu u cabsado shaqadiisa saaxiibtinimadiisa sumcad uu leeyahay iyo qofku ka xishoonayo inuu u saxiixo warqad uu leeyahay waxaan qoray firkalaarin oo waxaan u gudbiyey maxkamadda iska ilaali waxyaabaha aad qorayso runtii waxyaabaha aad qorayso waxay kugu noqonayaan dembi adhow waxaa lagu weydiin karaa qiyaamaha kama hadlayno holan keliya iyo maxkamadda qiyaamahana waa lagu weydiinaa adhow haddii maxkamadda la tago oo waxyaabaha ka hadashay ay qaldanaadaan oo ay saxnaantooda la hubi waayeen adiga askara dembigeeda waddan waxaan joognaa nidaam leh qofkii la handada xaq wuxuu leeyahay waddankan ciddii uu fahmi waayo wax kastoo aad fahmi weyso inaad dib ugu noqoto waxaad dhihi kartaa warqadan saxiixay ma fahmin fadlan waxaa u baahanaha in la ii caddeeyo la ii fasiro cid luqadda taqaan aan u geysto ma jirto albaabkaaga inta lagu istaago waxaan badbaadinaynaa meel heblaayi ii saxiix ma aha hal dhinac labada dhinac sheekha iyo dhinac kale cidday doonto ha noqoto iska fiiri waxa saxiixayso waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta oo yaab kale oo masaajidka ku aragnay in lagu leeyahay waxaa khilaaf ka dhexeeya maamulka dhexdiisa haddana dhinaca kale laga yaabo in lagu milmo oo dad badan oo yani xiriir aan la lahayn shaqadaas ay si uun ugu milan yihiin oo runtii iyada lafirkeeda masaajid waxyaabaha kusoo kordhay ka mid ah arrimahaas oo dhan waa jiraan guddigu waa ogyahay waa loo sheegay waa haynaa caddaynteeda dee ilaahay loo idmana meesheeda iyo markeeda waa ciddi u baahan waa nala soo xiriir kartaa dabcan inta anagu xaqiijin karno waxaan xaqiijin karin ma hayno waqtiga oo nagu gaaban awgeed ciddii su-aalo ka qabta axmed aa ku wareeji insha allah ku dhawa wadaadkii ugu codkarsanaa wuxuu sheegay in heshiiska markii la gaaray oo lagu heshiiyey in guddi sare la sameeyo inuu shiiqa la hadlo leeyahay shiiqa waxaan ku idhi 5 qofoo diyaarso oo adiga kaa socoto ilaah baan kugu dhaarshay nin dhexdhexaad ee wax dhexdhexaadinayo raggii ay qoorta u dhiibteen inuu qiyaameeyo dhinacii kala yidhaaha 5 diyaarso cadaaladda soo kama fogo oonu ka saxan yahay oo bartaa ka sheegayo wada dhagaysan
ma laga yaabaa marka dhinaca kalena inuu ku yiri adigana shan kala diyaarsada maxaa diidaya dhinaca kale isu dhawiisay la filay maxaa diidaya waa midda koowaad oo aad ugu xumaan waxaa meesha ku caddeeyeen walaalkeen aadan wuxuu sheegay warqadaas inuu shiiqa diiday wax kale muusan sheegin waad fiirsan kartaa kilibta wadaadka wadaadka shiiqa uu dhaartay wuxuuna sheegay wax alla wixii la soo dhameeyay oo hadda aad maqlayseen inuu shiiqa wada diiday inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun waxaa la rabaa haddaan fiyooraha isku qabanno caagaan isla ogolnahay inaan yidhaahno caagaas waa ku heshiinay fiyoorahaasna waa ku heshiin weyne waa isku afgar weyne waa waxa aan aad maaragtay dhibaatada badan u leh waxaa dhibaatada kale ka mid ah guddiga isdacweeye oo ishaysto rag waa dagaalami karaa laakiin waxa ayaan darro ah hooyabaa waxay leedahay 3 ciyaal ilaahay ku galladaysto siiyey waxaa ku jira idin sheegaya hooyabaa 3 ciyaal ilaahay siiyey 2 wiil iyo gabar buu ilaahay siiyey labadii wiil waxay ku jiraan inuu sheekh suldaan oo yahay ninka la shaqeyn la yahay marqaatigiisa furay gabadhii wuxuu furisaa in sheekh suldaan oo yahay ninka la shaqeyn la yahay gabadha ninkii qabay wuxuu furayaa inuu sheekh suldaan la shaqeyn la yahay waa ayaan daro odaybaa wuxuu furayaa asaga guddiga uu ka mid yahay wuxuu furayaa wiilkiisi iyo gabadhiisi inay sheekh suldaan yahay ninka aan la shaqeyn karin war xagee loo adeegsaday xagee ka socota maxaa keenay familkaaga meesha keenay intee u wadaa familkaaga waxa ayaan darro ah xaqiiqdan idin sheegaya waxa ayaan darro ah aniga guddigan ka mid ahay ragga walaalaha ee ninkii ugu badnaaya loo daryeel inay ballanta ka keenaan ka mid ahay ninkii ay diideenaan ka mid ahay ninkii u sheegaan ah waxaan idhi waxaad furaysiin iridii sharta waxaadna xiraysiin iridii qaybka waa meesha maanta aan joogno lama gaareen way diideen nimankii sidaa aan inta gaarnay og inaan guddiga ka mid ahay ee og inay nala kulmaan diiday ayaa waxay sameeyeen in aniga nin ii soo diraan walaalaha ka mid ah ee casirkii markaan dukaday ilaa jimcihii dhaweeto casirkii markaan dukaday ilaa cishi inta la gaaro aan wada hadlayni oo igala hadlayo arrimahaas inuu aniga ifurdaamiyo leeyahay guddigani waxaan ii howlo kale wal anigii marka ninka sidaa ila hadlayo gabdho yaryaroo Soomaaliyeed muu turaya oo calool jacan haweenku waa naga calool jilcan yihiin casirkii waan dukanay hadal baan u fadhiisanay maqribka nagula aqrimay waa ka baxnay salaadeen soo dukanay waa soo noqonay hadalkan u fadhiisanay cishaan oo lagu aqrimay aan ku noqono yiri ku noqon ma karaan waa daalana walaal dhaaf warilaah baan ku daadshay yani ragga sidaas waxaynayo maxaa u diiday inay yani hal keenaan waxaan su'aalay masaajidka yaale waxaan iri 2 nimood ka mid ah kilibiyaan ku haynaa oo ay leeyihiin masaajidka waxaa iskale ummadda Soomaaliyeed laakiin 2 kale oo ku qoran kaafekeeda ku qoran ee milkiyada sheegtay sheekha markii garbaha booliiska uu qabanayay sheegtay milkiyada kama hayna kilib ay leeyihiin annaga masaajidka ummadda Soomaaliyeed iskale ma lahayno warkiiba u qolahay ma lahayn wadaadkii ugu codkarsanaa wuxuu sheegay in heshiiska markii la gaaray oo lagu heshiiyey in guddi sare la sameeyo inuu shiiqa la hadlo leeyahay shiiqa waxaan ku iri 5 qof oo diyaarso oo adiga ka socoto ilaah baan ku daarshanin dhaxaad ee wax dhaxaadinayo ragii ay qoorta u dhiibteen inuu qiyaameeyo dhinaci kale yiraahdo 5 diyaarso cadaaladda soo kama fogo oo uu ka saxan yahay oo bartaa ka sheegayo wada dhageysan ma laga yaabaa marka dhinaca kalena inuu ku yiri adigana 5 kala diyaarsada maxaa diiday dhinaca kale isu dhawiisay la filay maxaa diiday waa midda koowaad oo aad ugu xumaan waxaa meesha ku caddeeyeen walaalkeen aadan wuxuu sheegay warqadaas inuu shiiqa diiday wax kale muusan sheegin waad fiirsan kartaa kilibta wadaadka shiiqa uu dhaartay wuxuuna sheegay wax alla wixii la soo dhameeyay oo hadda aad maqlayseen inuu shiiqa wada diiday
inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun waxaa la rabaa haddaan fiyooraha isku qabanno caagaana isla ogolnahay inaan yidhaahno caagaas waa ku heshiinay fiyoorahaasna waa ku heshiin weyne waa isku afgar weyne waa waxa aan aad maaragtay dhibaatada badan u leh waxaa dhibaatada kale ka mid ah guddi baa isdacweeye oo ishaysto raggu waa dagaalami karaa laakiin waxa ayaan darro ah hooyabaa waxay leedahay 3 ciyaal ilaahay ku galladaysto siiyey waxaa ku jira idin sheegaya hooyabaa 3 ciyaal ilaahay siiyey 2 wiil iyo gabar buu ilaahay siiyey labadii wiil waxay ku jiraan inuu sheekh suldaan uu yahay ninka la shaqeeya yahay marqaatigiisa furay gabadhii wuxuu furisaa in sheekh suldaan uu yahay ninka la shaqeeya yahay gabadha ninkii qabay wuxuu furayaa inuu sheekh suldaan la shaqeeya yahay waa ayaan daro odaybaa wuxuu furayaa asaga guddiga uu ka mid yahay wuxuu furayaa wiilkiisii iyo gabadhiisii inay sheekh suldaan yahay ninka aan la shaqeey karin war xaggee loo adeegsaday xaggee ka socotaa maxaa keenay familkaaga meesha keenay intee u wadaa familkaaga waxa ayaan darro ah xaqiiqdan idin sheegaya waxa ayaan darro ah aniga guddigan ka mid ahay ragga walaalaha ee ninkii ugu badnaayeen loo daryeel inay ballanta ka keenaan ka mid ahay ninkii ay diideenaan ka mid ahay ninkii u sheegaan ah waxaan idhi waxaad furaysiin iridii sharta waxaadna xiraysiin iridii qaybka waa meesha maanta aan joogno lama gaareen way diideen nimankii sidaa aan inta gaarnay og inaan guddiga ka mid ahay ee og inay nala kulmaan diiday ayaa waxay sameeyeen in aniga nin ii soo diraan walaalaha ka mid ah ee casirkii markaan dukaday ilaa jimcihii dhaweeto casirkii markaan dukaday ilaa cishi inta la gaaro aan wada hadlayni oo igala hadlayo arrimahaas inuu aniga ifurdaamiyo leeyahay guddigani waxaan ii howlo kale wal anigii marka ninka sidaa ila hadlayo aniga ila hadlayo gabdho yaryaroo Soomaaliyeed muu turaya oo calool jacan haweenku waa naga calool jilcan yihiin casirkii waan dukanay hadal baan u fadhiisanay maqribka nagula aqrimay waa ka baxnay salaadeen soo dukanay waa soo noqonay hadalkan u fadhiisanay cishaan oo lagu aqrimay aan ku noqono yiri ku noqon ma kara waa daalana walaal dhaaf warilaah baan ku daadshay yani ragga sidaas waxaynayo maxaa u diiday inay yani hal keenaan waxaan su'aalay masaajidka yaale waxaan iri 2 nimood ka mid ah kilbiyaan ku haynaa oo ay leeyihiin masaajidka waxaa iskale ummadda Soomaaliyeed laakiin 2 kale oo ku qoran kaafekeeda ku qoran ee milkiyada sheegtay sheekha markii garbaha booliiska uu qabanayay sheegtay milkiyada kama hayna kilib ay leeyihiin annaga masaajidka ummadda Soomaaliyeed iskale ma lahayno warkiiba u lahay ma lahay wuxuu yiri guddiyaal baan ku dhahnay ay ku dhaheen Soomaaliya iskale guddiyaal baan waxaan ku dhahnay ummadda Soomaaliyeed dad ha soo diyaarsato oo na bedasho waayahay warkaaga rumaynahay guddiyadii aad ku dhahdeen guddiidii ku soo noqdo oo idin yiraahdo ummadii Soomaaliyeed dad bay soo diyaariyeen ma aragteen mayo guddiidii ku soo noqdo oo idin yiraahdo ummadii Soomaaliyeed waxay dhaheen dad u diyaarimayne ayaga ha hayaan idin ku soo laabtay ma jiraan waa mayo haloora marka waxa ma idin sheegin marka suurtagal ma tahay marka suldaan xagga geeya adinka raacdaysteen hore ha u socdo guddiga Amsterdam adinka diideen hore ha u socdo isxilqaan iska dhaafo waa diideen xagga u tuuro ma soo ma ogolid inuu ummadda Soomaaliyeed leedahay ha war ummadda meel fiican baa soo gaarsiiseen taariikh fiican baad leedihiin ha taga dheelina ummadda u yeera masaajidka weyn u yeera kaalaya dhaaf gabadhii wiilsay u leeyahay ismeedin war meeshaan aan ka bilownay meeshaan wuu maraya meel maanta lagu faano mariya masaajidkeena meeshaasoo maraya isu imaada dad xusha annaga na bedelo waxbaa naga sheegateen muddo badanna waan soo wadnay dad naga bedelo soo diyaariya ee naga wareejiya dhaha ummadda ma dhihi kartaa maya ma dhihi karno adiga maale masaajidka maya sheekh suldaan maale maya maxkamadda ma rabyo masaajidka ummadii iska leena ma rabaan maxkamad adinka isdacweey hadaa rabtiin xagga ka baxa walaalkay kamid walaalaha meesha fadhiyo
وهذا بقيت إنا شيء آخر أيام طول مسكيبه وخصوصا هذا والمساجد كأمتها إسكالة مساجد كالدعوة مرة بيو أذيك هدار بتن إيش دعوة وروتي والمساجد كالدعوة مرة بيو أمتها ما شفت إنسان الدعوة قال إيه محكمة مرة هدي اللي جرواي إن أنيجا أن ماشى ودي كان اللي جرواي وإن أنيجا ماشى بني هنا وروايقتن والشرع قلدنتين هو كل يجي بسكو قرتين ومدة إنين دورتي مايا ما أنت أنصحنا ومدة أوكينا ومدة هدي ربع مركا أيدين كدبها أيدين دورته يا اللي يكون يستاهل ومايا وحان إذن لا يا مركا ولا ريارو هواك إيدتك أدل عن يا الله قلبي مساجدك أمدا إسكاله محكمتنا أمدا مربطه مرة أصعنا لكن كوا أصعده وحان وهرتي كرنا وربيتك الإسكان دافع وحان وهرتي كرنا إن النيرانو محكمة مربنا محكمة اللطجو ما شلفت هذا أن تجنو مربنا مساجد كان أمدا الصومال إسكاله نقول السعودية هذه marka walaalaha waxaan dhihi dib isugu laabto ilaahayna ka baqa wasulhu khayr wax ogolaada sheekhana waa sheekhayna masjidkana waa masjidkeena marka waa inaan wax isku ogolaano fadligiisana aan la inkirin haddii taas ay dhacdo waxaa imaanaya fashil iyo burbur iyo baaba iyo cilmi hadhowto aan laga faa'iideysanin maxaa yeelay cilmiga laftigiisa wuxuu u baahan yahay ikhlaas masjid sheekhi asaasay oo juhdi iyo dadaal intaas geliyay haddii laga saaro cilmigiisii xataa ma noqonayo wax laga faa'iideysto oo qalbiga hoos u dadego marka ha la isku laabtanii lahaa walaalaha ha fakaraan kadibna ha ogolaadeen in dhexdooda la galo oo walaalaha u soo laabteen telefoonada waa la wada haystaa xiriir uu jira adduunka alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda waxa meesha ka sheegayeen way maqlaayaan marka in la isku soo laabto oo waxa la ogolaado kadibna haddii ay soo wada laabtaan kulligood sheekha waliba had neeftaan walaal wuxuu i tusay inuu wali ku jiro kaafe kaar wali oo forseter ka yahay la leeyahay lacagtina waa laga jartay waxaa lagu sameeyey sida maaragtay loola dhaqmay sida walaalaha hadda ay sheegeen jazaahumullahu khayr guddiga waa arrin maaragtay aan cuntamay waxaan dhihi lahaa ilaahay ka baqa fii shaykhikum ilaahay ugu baqa dibna isugu laabta ilaahna wuu jecel yahay attaa'ibiin kullu ibni aadama khata wa khayru lkhata'iina attawaabuun qofku wuu qaldami karaa laakiin waa inuu ka soo laabto aadam calayhi salaatu wasalaam abuna aadam calayhi salaam wuu qaldamay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fataaba calayhi wahada wuu ka soo laabto qaladkiisa marka inuu qofku u ekaado waalidkiisana cayb maaha uu u ekaado waalidkiisa waalidkeena wuu qaldamay waan qaldami karnaa laakiin waa inaan ka soo laabano oo aan u ekaano waalidkeena haddana aan ka soo laabano isa saxno kadibna maaragtay yani wax ilaahay subxaanahu wa tacaala uu naga doonayo uu naga rabo inaan ku dhaqanno sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay tustay oo ah al-itixaad in gacmaha la is haysto gacmaha la isku dhego oo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartiisa wax loo dhaafo beri baa gar loo galay allah u naxariistay caydiid iyo maaragtay cali mahdi guddidii loo saaray waxay yidhaahdeen calina gar leh caydiidna gar leh haddayna taa ahayn beri horaa laga gurman lahaa aan geeli kasuu durduriyo luquntiisa ma dhaafo ninka ka sugayo compromise iyo inay isa soo dhiibaan soomaalida taladeeda ku soo celiyaan iyo ka sugayo nimanka miskiinka joogo wallaahi maaragtay laf iyo toobin ku haysaa waxaan ku darayaa nimanka tirburuq jooga nimanka iyaguna ka sugaya xal iyo maaragtay iyo sharafteed Soomaaliya loo soo celiyowna laf iyo toobin ku haysaa ha ka sugina labada anigu waan u kuurgalay waan la socdaa nimanka tirburuq jooga barbar la sheekaystay waraaqa falsa la keenay anigoo suudaanka sheekha ka soo saxeeyay igu yiri كلها كهل واي قال كنا وتعدينا لما كحلا كسبنا وحن الله في أمس دامو إذن كأيام دين طابقة إذن كأيام دين طابقة مسكيتكم إذن كأيو
magaaladina ka furaya idinkaa ka faa'iidaysta idinkaa maaragtay haddii cilmi doonaya wax ka bartaan idinkaa maanta nasiib u helay inaad dadkaa aanan maaragtay u naxaynin inaad ku sii daysaan idinka ilaahay weydiiyo carruurtooda wax ka barataan islaamiya agaarkeeda marka runtii waa dad looga baahan yahay inay si gaara isku xilqaamaan insha allah dadaalkiina waa wadaan walaalayaal dulqaadkiina waa ku mahadsantihiin anigu kolley wixii macluumaada oo ardaydii hawsha aan ku jirnay aan la kulannay waa idiin sheegnay sida masaajidka uu ku qurxanaa lahayna waa la idiin sheegay sababtoo ah meeshu maadaama ay tahay starting forum waxyaabihii la soo jeediyey ku jirtay oo aysan ahayn jaaliyad ama fareyniqin xubno leh dadku ay guddiga dooran karaan iyagu haddii guddigu ay khaldamaan ay la xisaabtami karaan oo ay shaqada ka qaadi karaan sida qurxanaa lahayd kolley waxay ku jirtaa xatalooyinkii 6 ahaa oo ah in guddiga 3 qof ah in maadaama 3 qof ay yihiin iyagii isqabteen guddi kale oo lagu soo xulay aqoon diimeed mid maadi ah waayo aragnimo xulumo haween dad kale oo wanaagsan oo guddi ah in lagu kordhiyo oo ay guddi badan noqdaan si xataa halkaa waxaa ka soo bixi kara qofkii khaldan oo lala shaqayn waayo meeshaaba lagu arki lahaaba in la ballaariyo talooyinkii fiicnaa la soo jeediyey ka mid ahayd haddii guddiga la ballaariyo guddigaa laftooda ay isqabtaan maadaama weli meeshu istiqtin ay tahay oo aysan jaaliyad ahayn fareyniqin ahayn leydan lahayn in la sameeyo wax la yidhaha soomaalidu waxay tiraa goosdambeed ama raad fantuusiqtiyaa loo yahay dad ayaga ka sarreeyo oo kor ka ilaaliyo oo iyaga meesha ku kontaroolo oo dadkaasuna ay matelaan mujtamaca soomaaliyeed ee iskale meesha oo la yidhaha raad fantuusiqti si loola socdo waxaa kala jira dad tuurisaha jira oo masaajidka sadaqada bil walba bixiya dadkaa laftoodu waa inay sakhisqa inay meesha ku leeyihiin oo haddii meesha lagu ciyaaro ilaa meesha waa masaajid istiqtin ma aha inta lacag yaroo subsidi lagu qaato qof jaabka isaga wato maaha maya meeshu waa masaajid ummaddu ay wada dhisatay wada leedahay ay rabto weligeed inay haysato in xataa dadkaas faraha badan oo biyaha iyo gaaska iyo korontada iyo bixiyo meesha hadday halaawdo laftigooda in meesha laga siiyo inay sakhiska wax laga awood ay ku leeyihiin iyaga xataa sidaasay meesha kusii jiri kartaa waa sida qurxan moodallada qurxanaa lahaa injineerku waa soo diyaariyey hadda waqtigaa ciriinugaa siday ku qurxanaa laheed waa sida fiican marka hadda waqtigu ma saamixin barsentaasiga ladiinku daro wax kastaana xal ayay leeyihiin runtii annagu aadaan u fahmi waynay waana nagu adkaatay يعني نمكاس ونمن صاحبنا واسنقانا وصوّد الشخينة يعني معها عدالة درد ومفيعنا يعني إن يعني أيجا ولاد كودا ومرر بدل مرقاتي كنا أيوة شاقين ومعلم كيني وولاد كيني حاسسكم نغطري قرانكم نبري حتى يسقطين سوى ناكسن وبحاجكم هايسان حاجات إبكو كجيرا وحمل يدي لها جاجيا وحاسودا وصوبا بكني يعني فريمان ودرني مركا إلهي ما عرفت واحد رجينا إنه خير كنوافجيو waxay duruuftu nagu qasabtay in lacagtii aan lahayn aan waxba maanta ka dhihi karin ilaa iyo dabcan ma naqaano amar dambe laakiin xilligan waxba kama dhihi karno sheekh suldaan qasab ku sii xataa ma dhihi karno laakiin ummadu xaq ay u leedahay inay ka hadasho sidaan oo kale ay u hadasho waxaan isku daynay maadaama lacagaha ku baxa barnaamijka badbaadada ay badan tahay bal in ummaddu ay u hesho meel uu tabarucaad ay waxuun ugu diri karto waxaan weydiisanay walaal soomaaliyeed oo istiqtin safe alive iskale inuu naga saacido barnaamijkaas tabarucaadda ah oo akoonkiisa uu noo furo sidaad meesha u jeedaan waxaa ku qoran sheekh suldaan sababtaan ugu qornay ma aha sheekhu isagu dalbaday waxaan ugu qornay in dadku kalsoonida qofka meesha wax lagu bixinayo ay helaan oo ay saas u ogaadaan sheekh suldaan laba gabdhood soomaaliyeed oo nagu qoran khayr laa siiyo sucaad cabdi iyo xayaad cali waxaa noogu jira walaalkeen xuseen kaahiye oo asagana xagga ragga ah sidaad u jeedaan arrintan hoos waxaa uga qoran initiative oo donatorska ka yimid moskee quba inay yihiin maadaama masaajidkii lacagtii aan ku baxsanay aan waxba maanta ka heli karin
وأنا هنا أندر فورم أو وحده أورسنا قفك وحربا إنه خوب بحيو بساج برنامج كان بالبلد المسجد كان وحصبي كرا وحلو صدر دونا تكي هذه الأيمو جروبيات أمضوا يكون جيران وقاعدة كرا فولدر كان وعودر كرا عدو شليه وعليك ساعد كرتا لعكت المحلات ضد نظام كذا أوروريا والغلاء حساب ضد دونا دي الأيمو قفك ربنا ويدي كرا عدة إسكال استرتيكا ذلك هذا وكيل كا أو ماشي أكو قررنا وكتك برسول ولا لا حديث كرا دي الأيمو الشيخ اللي افتكر ولا لا حديث كرا صوت النوجي سنة ما عنا العقد هذين الاثنين وعقو قصبران إن القاب ومضوا إنه وراته هذا واحد من بدبالو يجوجين شيخ وبعد أنا لا الله يوقف فينا ما يشتغل مشارنا ما يشتغل ماشي كان ولا جدودي ولا لا ورتصل وهذا بحثوا عيبه وجرا أحضر محكمة دي لوجود دري إلا هو استعماله فرافيل فريسي عيار إيو قويس إيو وحنا استعمال مثله حيلا فوق أو كحشونينه oo aan maanta aan isleenahay aan laga hadlin laga xishoodo waxa kamid ah sheekha in lagu soo duulay aniga saxda dadku ay fahmaan sheekh Suldaan ma aha inuu dagaal kula jiro dhowr qof oo meesha kula qoran sheekh Suldaan masaajidkii masaakiintii joogtay oo dhan waa loo isticmaalay asla socon qof kasto oo meesha joogay waa la isticmaalay iyadoo waxa uu xataa uu qoray oo laga yaabo inuu soo qorin baraka duruufaha soo dhalaa jira barna ku tarax tagno waxaan ku qasbannahay inaan maxkamadaas ka dhursugno waxay soo saartana dabcan cid diidi kartaa male waxa anagu aan sheegayno horaa loo diiday oo cidda dhegaysataa ma jirto ummaddii Soomaaliyeed waa hadashay waxa weynaa xaajiga waa hadlay cid dhegaysanaysa male laakiin maxkamadda waa lagu qasbaya in dhegaysto waana meesha ugu dambaysa isleeyahay waa lagu kala bixi doonaa ilaa wax soo xirneen maanta wadaadkeeni waxay u furtay maxkamad sida iyaguna onslaax ay ugu sameeyeen ayaa iyaguna onslaax ugu sameynayna albaabkuna waa laga xidhi karaa gudoomiye kale waa inay soo bandhigaan meesha weeyaan waa stichting betekent niemand is eigenaar qofna ma laha waxa leh dadkoo dhan baa leh dad baa jira waaweyn oo waxaanay akhriin laga saxeexay anuu taasaan muhiimadda saarayaa waxay la tahay dadkaasi inay ama la soo xidhiidhaan guddida halka joogta ama annagaba nala soo xidhiidhaan qofku wuxuu xaq u leeyahay wixii dambiye naftiisa laga galo ee isagoo ogeyn laga saxeexo inuu aakhifti ka sameeyo qof kasta ay booliisku ballansanayaa aakhifti buu samaynayaa in waxaan u raalli ka ahayn hadalaha aanu isagu qof ka qorin in laga saxeexay ninkii dambiga ku dhacayna isaga markaa ku dhacay sida iniga layniiga cabsiiyey laynigu yidhi waraaqaad saxeexdeen intaasaa layna xidhayaa sax maxaakimin yihiin iyagu ayaad idiguna xaq u leedihin wixii dambi layniga galay inaad idiguna dacweysaan aad ka dacwootaan marka qof kasta waxaan kula talin lahaa inaanu booliis ka cabsoonin uu tago uu xaq u leeyahay aakhifti inuu sameeyo uu ka sameeyo khaladka laga galay ya adoon qofna dulmayn xaqaaga raadso bas kaliya intaasuma ku dari lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh annagoo lilaahi ismaqlayna caawa intaan aan isla helay waa meeshii igu fiicnay ilaahay baan inagu dhaasheeyey malaa'ig baan isaartay kulligaan madaxayna wada cas intaasoo kilomitir waxaan uga soo cararnay waddankeeni dhibaato in maanta annagoo intaas isu jiifna in dhib kale uu nagu dhaco oo masaajidkeeni dhib ku dhaco caqligal ma noqonayso marka waxaan rabaa anigu fikirkaygaan cabirayaa cidna kuma xadgudbayo qabiil maahi xagga maahi alxamdulillah intii taqaanaan waa ay taqaanaa axmed cabdi حاطون وصاحبكي ما قالتي هيبه وصاحبكي ما قالت حسن وصاحبكي ما قالتي مركا أرتي على إيه أكيد دلعة شيخة وشيخة دي إلا يماتنا وتاجر سنة لكن خلت كده عايز سداء الشحناء وهي أنا دلعة ولا حنك وهي لكن waxaan ugu guddigan Amsterdam aan ku haystaa waxaan ku yiri dhinac baad u badan tihiin maalintii ugu horreysay ninka dacwada iyo maxkamadda saaray xalkii wada hadlayna waa walaalkii Faysal waxaan ku yiri ninka ugu horreeyay dacwada furay waa adiga guddi ma noqon kartid ka bax ma garatay haddana waa inii sheegayaa hadda xalka waxaa weeye Sheekh Aways cilmi baa kaa buuxa بريتو قرعة ولا قبل أبو
guddiga 4 qof 5 qof aan iska bilowno ninkaas aan ku garcas oo reerta magacaaga Sheikh Muuse يا لكن ما الشيخ انا وان دورتي ما قلنا يسا هاي بقر كاي لو جيرو ميشا بقر شيخ حسن يا شيخ موسى يا اويس انا اللي كداشي وافضوا ده والله ما انا كليه waxa la isku haya guntiga laga saaray sheekhu masaxba mise waa khalad waa ko ayagana inaan u tagno niraahno waa anig fikirkan qabo hantidan aad haysaan ma tahay hanti Soomaaliyeed ha iyo maya hantidan Soomaaliyeed yaa u haysaan ummadda Soomaaliyeed annaga cidda rabno u keensanayna laakiin go'aanka dhacay iyo inaan wax kala niraahno labadooda intaan meel kale u gudbinin inaan marka hore kala niraahno labadooda go'aankan dhacay masaxba ilaa rag hore baxay ma garatay miyuu raacaya mise ma raacay guddi kale aan u badsano aan fikirkaasaan qabaa ma garatay midda labaadna inay hantidan ummadda Soomaaliyeed sidaan uga soo wareegi lahayn ama gacanteena ugu keeni lahayn inaan ka tashano xalku meel uu ka dhow yahay idin sheegay waa haddii ummaddan ay u raacayso xalku waxa weeye Cabdi Cali Xalmaha iyo xalku waxa weeye maadaama Sheikh Suldaan uu ka mid yahay ragga masaajidka wax kale oo cali waaran uu cadeey uu yiri 35% asaga kale inuu masaajidkii maadaama fursadan uu ka yahay inuu masaajidkii soo dhex istaago imaamnimadiisii iyo shaqadiisii uu bilowdo furiyaashana uu bedesho annagana aan ku kalmeen markaas haddii booliis yimaadaan haddii cadeen buu haystaa shiiqa warqadiisa uu la soo baxo fikrad kale ama xal kale oo lahayo raggaasna haddii banaanka sidaas uu shiiqa u istaagnaado wax xal oo la gaarayo haba yaraateen male maxkamadaana 10 sano ay socon doontaa marka ragga guddiga waxaan kula talinayaa iyo shacabkaba in Sheikh Suldaan masaajidkiisa uu soo shaqo tago lacagna lacagtaas wax ka leeyahay inta annaga jeebkeena maanta xogo aruurinay bangigiisa lacag ku jirta mushaarkiisa halkaas ha u doontaa ilaa wabillahi tawfiiq intaas ma bacay salaam alaykum meesh waa istirtina dastuurka ayaa baaska ah dastuurkuna waa 3 qofood gudoomiye Sheikh Suldaan ah Minister waa gudeed iyo Sheikh Ibrahim oo secretary saddexdaas qof ayaa meesha guddiga ka ah haddii muxuu ahaay marka sidaa isa wanaagsan oo saxda loo fiiriyo meeshaan lacagta lagu galay lagu dhisay ilaa maanta ku socota waxay ka timid ummadda Soomaaliyeed walaalayaal waa dadaasheen shaqo fiican qabateen dhibku waa dhici karaa حلقات شيء هذه الشيء حداد ديدان إلى تهشيس قادتان أباد الشيسان ومدى الصوماليين وحيد وعلي إلا أيضا سكاي تنكالو حيد حداد قوات كيستان أننا بستوروس ميشا باس كأه سيد استاتوس كنتان ليدن مجرو بوان كستا أننا ميشا اسكالا هديتاي تاسي المركز حتى ودليدي هيدي دلهانشي مركز الذي قيبي أساسي في المغرب وكي يوسف الجواب تاسي